maskaxgal ah oo caqligal ah oo siday wax u jiraan ayaan farta taabsiinahayaa soomaali bugtada haysa aysan 32 sano iska daaweynina waa idin taabsiinahaya maxay ahayteen arrinta ka jirtaa city iyo galinka shanaad iyo dowladda Jabuuti maamulka boqortooyada ku haysta 45 ka dadka ku gumeynayay annagana burburiye ee Jabuuti fadhiyana waa idin la qaybsanayaa soo dhawaada dowladaha galbeedka iyo Mareykankana su'aal baan weydiinayaa su'aalahaas aan weydiinayo waa inay meel mariyaan soo dhawaada roker Soomaali waxay meesha u kala istaagtay qabyaalad Soomaali waxay meesha u kala istaagtay argudsi Soomaali waxay 32 sano dawlad caadil Soomaali u dhantay u sameeysan waayeen dhibaatadii Soomaali jabhadihii u geysteen shacbiyada Soomaalida iyo qabyaaladii ayaa diin noo noqotay diinta ayadaa ka horeysa warkii hore war soo dhaaf yes soo dhaw warkii hore war baa ka dambeeyay warkii hore war baa ka dambeeyay wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aron keer ani Soomaali isjiidatay Soomaali iscaayda aan waqtigayga maxay hayteen expensive ka ah ee qaaliga ah kuma dhuminayo ani Soomaali inay baabaaday oo burburtay aysan isku iimaanaynin ilaa dalka la kala wareejisto dalka la kala qaato la kala qaybsado oo Soomaali la kala qaybiyo oo qaaradeeni 7ka la kala qaybiyo oo la kala maxay tahay wadamada kale lagu daro Soomaali ma degayso mana heshiinayso mana isku iimaanayso waxna ma qabsanayso mana isku calool fiyoobaanayso diinteenu waa qabyaalad diinteenu waa argusasho tii rabbi waa ka tagnay dhimashadii waa ka tagnay dambiga qofka walaalka ka galaysa waa ka tagnay adduunka waxaan ku haynaa been iyo khaa'inimo iyo istabamarin iyo qofka walaalka ah shalay buu walaalkay dilay maantaan argusanayaa kursiga u soo fuulay ya war wixii shalay laga soo gudbo Soomaali inay isku timaado oo walaalo noqdaan oo dawlad u wada dhan tahay sameystaan oo qof iyo cod sameystaan oo qabiil kasta Soomaaliyeedna ay walaal noqdaan gacmaha qabsadaan waa diideen marka dawlad wax la yiraahdo ma jirto wax la yiraahdo dawlad Soomaali u dhaxaysa ma jirto taa iska ilaawa wax la yiraahdo dawlad ma jirto maamulka xamar ka jira waa maamulka argusashada wuxuu yiri ninka xamar fadhiya xasan foorarsada wuxuu yiri kelmadiisi uu yiri oo bil cagsi ah weeye Soomaali heshiisa iyo adduunka la heshiisa Soomaali oo iska argudsanaysa oo kala cad goosatay oo weliga isdaba taagnaanayso ayaan meesha la igu soo fariisiyay buu yiri iyo adduunkii oo nala yaaba oo afkay gacanta qabsada ayaa meesha la ii soo fariisiyay buu yiri inaan ka shaqeeyo naasasi raaciya Soomaaliya Soomaali heshiisa iyo adduun la heshiisa ma jirto gurigii asaga sheeganayo nadiifsan la yahay soo Soomaali xal ugu keenaa gurigiisii oo nin gurigiisa wasaqaysan guriga kale ma nadiifin karaa Soomaaliya gurigaaga wasaqaysan guri kale ma nadiifin kartaa ma nadiifin kartid horta gurigaaga nadaafada ka soo bilaaw soo dhawaad Soomaaliya arrin cajiib oo qabiil gaar ah ay maxay hayteen ka dhigteen sharci ay ku wada heshiiyaan oo ka dhaxeeya oo isaga daba hadlin ayaa idin la qaybsanayaa soo dhawaada istarin baan ku maqnaa reer baa istarin gareynayay reer Soomaali rogtay mar bashaati noo soo gashta istarin gareynayay soo dhawaada Soomaali rogtay Itoobiya rogtay Jabuuti rogtay baan istarin gareynayay soo dhawaada أنا don't care قبيل شقك بلي horta halkaan waxaan u tacsiyeynayaa waa dad Soomaaliyeed waa dad Muslim ah waa innocent people
waxay geysteen ma jira ma garanayo waxay geysteen ma garanayo ayaan u tacsiyeynahayaa reer hiiraan shacbiyadii la laayay ee la xasuuqay soomaali maxamed ah soomaali ah dad islaan ah ayaan horta u tacsiyeynahayaa eheladoodii iyo qaraabadoodii ilaahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo godkoodana allah u qaboojiyo jannadii fardoosana allah ugu bishaareeyo samir iyo iimaan allah idinka siiyo soomaali oo dhan ayna ka wada baxeen qabiil kamaysan bixin laakiin soomaali oo dhan bay ka wada baxeen marka waxaan leeyahay ilaahay jannadii fardoosa ha ka waraabiyo taa waa mawd wiilka la dhaawacayna asagana balaal bulshaawina waxaan leeyahay ilaahay adiga wiilkii kaloo saaxiibkaana ilaahay ha idinka kiciyo dhaawaca idinku dhacay allah ha idinka kiciyo ani soomaali waa ii soomaali I don't care qabiil أنا قبيل نقول إيجا ما بحيو قبيل كرا إيجا ما بحيو قبيل واحد كنا ولا إيجا ما ورهايو قبيل عافمات كي حنون كي كما ورهايو نقول شيء إذا كما ورهايو I don't care قبيل أني قبيل ومن نولي مجا الصومالي أقول له رهاي ذلك أنت يوجنا وحكوا يوجا مجا الصوماليات أنا إيست أفريقيا كي ماذا يبقى تعود ذلك يوصل عرري الصوماليا هاي أيا الله يقول أقبلي ayaa liigu soo dhaweeyay ayaa sharci liigu sameeyay ayaa sidii bini aadanka xuquuqdayda la iigu maxay hayteen la ii soo dhaweeyo si bini aadanimada baxsan xuquuqdaydii la ii siiyay inaan xuquuq dalkan ku leeyahay inaan nabadgelyo kula noolaanahayo inaan sharciga waddankan u hogaansanahayo inaan qofna ku xad gudbin inaan qofna been ka sheegin may garta nabadgelyo iyo akhlaaq iyo edeb iyo sharciga waddankan inaan kula noolaado yaa ayaan ku ballan qaaday soo dhawow baa la yiri ahay soo dhawow waana dhowahay ma sha Allah soo dhawaada waa meeshaas waxaan rabaa hees ma rabo Soomaalida hees bay ku tuurtaa I don't like it hees mar haddana taariikh iyo waxyaalo dhacay aan shidayna shacabka aan dhagaysiinayn sida wax u jira وين مرة بهيس مو بان هيس سوماليات إن أنا هيس شدو هيس وحافك يجا سومالي قاعد كل هاد لا أنتي أفك سومالي فهم يسا أنت اللغة سومالي نجوا ذا حيسا سوري هذا I don't care gabadhay soo qoraysa walaalkaaba wasaqeeyay I don't care maxaa farmaajiya baay waa qaldamaysa aad bad u khaldan tahay waad khaldan tahay maxaa farmaajiya 6 sanaan ku dhaganaa may garatay inaan ku jawaabana maaha because waxa tahay qof jiran Allah ku caafiyo ilaahay ku caafiyo ilaahay ku caafiyaan ku leeyahay I don't care ani walaal iyo qabiil iyo shaqo midaan ku leeyahay ma jirto horaanayda kugu sheegay hadaad wax maqlaysaan maxamed farmaajo adduunkana waa ku kala tagnaa akhlana waxba isku banihiin hadaa wax maqlaysaan waxaan walaal magacaas aabaa naga dhaxeeya fariimihiisana way soo gaaray waan idin la qaybsanaya asaga iyo ninka Fahad Yaasiin leeyo caloosha weyn oo Turkiga jooga inuu dalka ku soo noqdo oo dalka mar dambe ka taliya asaga iyo Fahad waa calaashaas oo tima ka soo baxda fariintoodana way soo gaartay hanjabaadoodana way soo gaartay نيجرتي وأنا إذا لقى يسنها يا أذا يسوي حسوسية وابي إلا وسنابة thank you أنا واحد يسكب النهين ما قاعد عصار نقد حياة ما قاعد نقد حياة وكذا شيء because ما قاعد أباي تتكلم ما بابي إنكره no that إلا يقول لا يشاتي أباي أنت ما قاعد أباي لقول دبعتي no وادي لتاس ما قاعد أباي نمشي وكباي نيل هذا فار صداقة صدي فورر سده oo qabyaan inta ka buuxda dadka isku dirahaya ee argusasho u soo fariistay inuu yiraahdo hebelow qabiilkaas qabiilkaaga dhibaateeyay soo dhibaateey go ahead annagana qabiilkaan baan dhibaateenaynaa ayaa kursiga ku fadhiya ma hayna farmaajo ha soo dhawaada Soomaaliyay aniga إذن عبد الله فرماتي على هذا أنا حقيقة كهذلا وحي جيران كهذلا
bini aadan uma nooli aakhiradaydii ayaa u noolahay wixii aan geysta ayaan aakhiro la tegayaa nin aan kala jeclaan hayana ma jirto qabiil inaan sibood gareeyana uma soo fariisto magaca Soomaali baan u soo fariistaa dalka aan joogana qabiil uma joogo Soomaali baan u joogaa anoo gabar Soomaali ah anoo hooyo Soomaali ah degarta ay maqashaan xaqiiqda idin la qaybsanayaa marka wixii jira idin la qaybsanayaa marka idin ka maqnahay muddo waxbaan istaari gareynayaa waxbaan ku mashquulshanahay ku maqanahay oo rabaa shacbiyadayda inaan la qaybsado ay Soomaali ka mahadsan tahay oo aysan ogeyn Soomaali ay dhinacyada marmarahayaan oo waxaana meesha ka jirin iska maxay hayteen ku hadlayaan ku hadaaqayaan ayaan rabaa Soomaalidayda inaan la qaybsado si cad oo cad anu waa idin sheeg waxaan ku dhahay Soomaalidu waxay tiraahdaa la yeelaa waxaa li fiisu yeelaa waxaa li yiri yeelaa waa ilaawa laakiin la yeelaa ma ilaawo yeelaa waa ilaawa laakiin la yeelaa ma ilaawo waqtigeeda rabtaa ka soo wareegto dhaqan Soomaali waxaan u nahay diinna waxaan ka dhiganay aargusasho qabiil ah inaan u soo bareerno si dartiiba oo sarbeeba qofka inaan u dilno anoo ka aargusanahaya bari buu qabiilkayga wax ku sameeyay bari yow reerkayga wax ku sameeyay bari buu qabiilkayga dhibaateeyay ayaan dadka masaakiimiinta inuu samtiga u dhibaateynaya horaana u sheegay aniga maalintu Xasan Sheekh qabsaday wax ku dhahay Xasan Sheekh wadadii Maxamed Farmaajo raacid Xasan Sheekh ka fakar ninka Prime Minister ka keenis Xasan Sheekh ka fakar ninka keesan doontid Xasan Sheekh wadadii khaldaneed Maxamed Farmaajo maraha mari ومري وايدين شيء وحاين ده حس الشيخ ودادي فشل كتاجي وحكاله وحبيو يرسيني فيديو هذا كل نقطة كو حس الشيخ عدو مدحوينه وياي مجرت Soomaali ما هو جامي حس الشيخ قبيل بو ماشي وفديا وفديا أو بيت criminal organization أو UAC أيو وفديا ماشي عدو هو جامي Soomaali وهو جامي Soomaali ومدحوينه وياي Soomaali وهرمود وياي من مجرتو مجا Soomaali بربادين إنه قدر دشوا شعبية Soomaaliya أو كباهن وحوس حس الشيخ أقولي وقصي وسكود بمري إن لإسكا أرجود سدو رفنتي إلا سمايو هذا شيء هي رفنتي إلا سيو بحنا دي ويدين هيا ويرجو نكين حاسة تركيا وكان صدي وكرسي كان صدي مجا دارود وكان صدي بنت كشيء مجا دارود إلا مجا دارود ما هو جامي حاسة فور صدي إلا دارود ما هو جامي ما حاسة فور صدي قبيلو ما أنت مسؤول كي هاي من مجرته قبل الذين واقع برناك تاجيه جار كود وحور راسنايات قبل كيسي حمر وفدينا وأنا بدل لا يهاي حافظ وفدينا وأنا بدل لا يهاي ببعتدا وكان صدي أنا إذا كجاهل بعين هاي Soomaaliya دقينا يا ماه أنا Soomaali ما كان لا حقيقة كان لا ماشي تونت دقيقة كجرت سنت كجرت هدانا لقى ساقفين Soomaali ما هيشين يسمى يسكوي معنيس سنت ساقفا يا دقيست دقيست وارجعوا نكليه حسن تركي وكان يري برايم مينستر بويا برايم مينستر من نقول كرو دل مدح بنانا منهين دل هايستان هاي UN كان هايستا قرامة مدوان هايستا international community كان هايستا chapter 7 بان لو هايستا هي occupation دل مدح بنانا منهين دقيست Soomaaliya دقيست نكان كان سده وارجو إن حاسة تركي حمسة بالعبد نكلا ليه هاي وكان سده ومجا دارود قرف صارك وصو صارتي دارودنا وكيل كماها دارودنا مسؤول كماها دولة Soomaali ودنتهاينا معها هاي دي شيء هي دويناها يا قالدا لغو خلطهايا دويناها يا قالدا أننا هايستا جبترسن نكو سورتا لغو خلطهايا oo beel loogu sheegay la leeyahay Soomaali baan nahay dawlad baan nahay 4.5 waxaan idin weydiinayaa muxuu hiiraan ka doonay Xamse Hebel Turki Xamse Xasan Turki Xamse Hebel Cabdi ninka ogaadeen Ethiopia ka yimid
سردون كينيا محو كدون هيران هل يسويدي سوماليا محو كدون هيران هادو تغيو maamulka koonfur galbeed muxuu jawhar uga degi waayay maamulka jawhar buu joogay hirshabeelle muxuu jawhar uga degi waayay sabab uu hiiraan uga tegay isweydiiy calaamad su'aalkaas isweydiiy calaamad su'aalka ninka ogaadeen Ethiopia ka yimid ee shaatiga sirdoonka Kenyaatiga ee xasa keensaday muxuu hiiraan uga degay muxuu beledweyne uga degay ujeedadiisa maxay ahayd hawshu ka sameynayay maxay ahayd hawshu ka sameynayay maxay ahayd uu uga degay beledweyne asagoo jawhar ka tagi kara dawladda jawhar bay fariidaa hirshabeelle why shalay bay ahayd hotelkii murursaday wuxuu qarxiyay maha salaad uu xasan sheekh raal uga noqday hotelkii murursaday xayaat dhulka la dhigay la qarxiyay oo dadkii xitaa lagu dhex dilay okay waarigo muxuu ka doonay marka hirshabeelle hiiraan muxuu ka doonay waarigo markuu ka soo tegay maxaa ka dhacay beledweyne isweydiiya maxaa ka dhacay dadka in lagu xasuuqo soo kama dhicin jalalaqsi reerka xawaadle maxay tahay wabiga jalalaqsi maxay ku sameeyeen shacbiyadii ogaadeen ma dhudhunkadeen mise waxay ku rideen maxay hayteen jalalaqsi waxay ku rideen maxay hayteen wabigiisay ku ridiyeen caruurtii barmigeydadii shacabkii ogaadeen xaggay ku rideen reerka xawaadle ninka la leeyahay sambaloyshe hawiyaan nahay ogaadeen beesha ogaadeen ee jalalaqsi deganaa xageed ku riteen reerkiinaan xawaadle soo webiga kuma idin ridin caruur iyo dumar iyo bermagaydo soo webiga dalaq kuma idin siinin soo cuqubadii hiiraan kama dayso ilaa webiga idinku soo furto ilaan dad masaakiimiina oo bermagayda ayaa waxa ku riteen webi waxay idin geysteen ma jiraan innocent people ayaad webi ku gurteen asa qabiil ahaan maxaa maanta idinka raacay marka waarigo ma aargudsaday mise ma aargudsanin xamse ma aargudsaday mise ma aargudsanin xamse ma aargudsaday mise ma aargudsanin markaa idin leeyahay soomaali waa revenge soomaali waa la iska aargudsadaa soomaali ma heshiinin soomaali iskuma calool fiyooba soomaali gacmaha isma qabsanin waa revenge waa aargudsashe waarigow xamse muxuu uga degay beledweyne muxuu uga digi waayay dowladda hirshabeelle jawhar bay ka shaqaysaa why dadkan xawaadle ee lagu xasuuqay maxay beledweyne yaa xasuuqay maxaa markii hore loo xasuuqi waayay intuusan beledweyne imaanin ninka la leeyahay xamse maxaa loo laylan waayey muxuu ka soo doonay hiiraan muxuu indhaynayay hawshuu ka waday maxay ahayd markuu ka soo tegayna maxaa shacabka loo xasuuqay hiiraan qabiilka xawaadle maxaa loo xasuuqay maxaa loo gumaaday xasan sheekh wakaa marka xasan sheekh waa kaasa xasan foorarsaday waa kaasa hawshii sameynay markaan daay warkada war ninkaan Ethiopia ka yimid ninkaan labada jaab ku jira war joog war xasanoo joog tan inay imaanayso waan ogaani aargusigaan inuu imaanayo waa revenge-ga inuu imaanayo oo aargusanayo ninka xamse la leeyahay waa ka gobol kale kama u degin hiiraanu ka degay beledweynu ka degay kama degin jawhar afkiisaad ka haysaan xamse xasan turki waa ku janno tegaynaa dadkaan dilayno jannaa ku soo raadsanay xamar u imaanay jannadu maxay tahay inuu dadka laayo jannadu maxay tahay inuu aargudsado jannadu maxay tahay inuu ciil baxo jannadu maxay tahay inuu dadka xasuuqo oo halkaa noo fadhiyo magaca daaradna loogu keeno annagana magaceenni daarad uu ku wasaqoobo waxaa idiin sheegay waa kaas soomaaliyay anu rurtaa anu xaqiiqdaad igu imaanaysaan
حسن فورر صدق وحو كاني لقناته فولحن شالينا وحو يرعد لغا أرقسنا إما جرت مانتنا وكا أرقس دي السعودة قبيل الذي إسوغارسنا يسا حوال لو إذا كايدين تالا مركا reerkiina xawaale idinka idin taala xasafoorar sade naaskiinuu nuugay reerabti baad u tihiin cadowgiina ayuu idin keenay cadowgiinuuna idin soo diray in laga argusado arrinta ka dhacday beledweyne ka dhacdayna xamsa mas'uulka xamsa ka dambeeyay ina xasaturka ka dambeeyay waada iyo naasaadaga maxaa kulmiyaa la yiri waada iyo naasaadaga maxaa kulmiyaa la yiri idinka idin taala باش عالم كالada idagaysanaysa waxaan idin sheegayaa dalka Soomaaliya xasan wuxuu ka soomeeyay idinka raalowga idinka USC organization criminal ee wadanka burburiyay idinka yiri qabsada dalka dadka laaya idinka mas'uulka idinka aabi hooyadii leedahay iswaan bayna aabi hooyadii idinka madaxweynaha kaad Soomaaliya ee qaramada midoobay noo keentay annaga halana noo fadhiya asaa mas'uulka waxa ka dhacay Hiiraan waxa ka dhacay Xamar hoteelada la burburinayo ugaarsashada socoto argusiga socda argagixisada dalka qabsatay mahad salaadka faraha ka haya xasan sheekh ee fiidiyoyada ka haya ee argagixisada dalka laynaya ya raalli baad uga tihiin xasan sheekh inuu mahayteen mahad salaad kursiga ku haya nisow dadka ku laayo fiqi inuu dadka ku laayo raalli baad uga tihiin العدالة إنه دتك الله يرالي بعد قتيل وUSC organization criminal هراجودي وعرورتي ويه عيديدو شقينا يسوي ودنك بربرسو استديده بربرسو كمدي وهذا الشيء قال أنا هذا الشيء هراء يدين كوكو الشيء كمان الدجين كرو نكال اللي هاي مع الصلاة كرسي هديك الفريسة ميديا اللي كاني هيا ما انتو تيجي هيا إمارات حسن الشيخ فيديو يلا هيا marka waxa weey xasan sheekh yu hogaamiya xasan sheekh yu madaxu yahay xasan sheekh yu laynahaya xasan sheekh yu xasuuqaya wuxuu xasuuqaya Soomaali shacab Soomaaliyeed wuxuu xasuuqaya beel asaga la hawiye la ah wuxuu la shaqaystay argagixise ragga uu keensadana waa argagixiyahana waxa weeye waa siyaasad dadka lagu laynahayo because maxaa dhulalka daarood loo geeyn waayay way dhulalka hawiye qaraxyada iyo dilka uga socdaa way dadka loo laynahaya waa magaalada Muqdisho waa Hirshabeelle waa Maxaytan Jowhar waa maxay hayteen ilaa Muqdisho dhigu wadaadanahaya aaway dhulka daarood maxaad u geeyn weydeen Puntland maxaad u geeyn weydeen caawdo maxaa la tagi weydeen balanbal maxaa la tagi weydeen maxaytan gada maxaa u geeyn weydeen maxaa u geeyn weydeen because kismaayo qaraxyada ka dhacda waxa ka mas'uula ninkan argagixisada Axmed Madoobe asaa la shaqaysta qaraxyada ka dhacda kismaayo xasan waxa la shaqaysta ninkan leeyahay Axmed Madoobe asaga argagixiyanimana kursiga lagu soo saaray dawladda Kenya wadata laakiin dhulalka daarood maxay qaraxyada Hargeysa maxay qaraxyada uga dhici leedahay laascaana maxay qaraxyada uga dhici leedahay waxa weeye waxa idin gumaadahaya shacbiyada hawiye ama hawiye sheeganaya waa siyaasiyiintii عيديد لشقينا هي وعرورتي عيديد ونبريجي وUSC organization ودتكي دتك الصومالي قحيي دباتيي إلا يصدر يلا وصل وفدوبين ويا وحيد اللاين هي شعبية هويو يا شعبية النور كونفور قلب ما يكدع هذا قرح ودقري مرف ما يكدع هذا كدعي ما يسو هادو الهوية كليا كاني انت تكدي جود آت بنيستان ها كاني واي وسياسة اللي سكوجي مسؤولنا وحكاي إسماعيل عمر قال أبوه وحوا كابوه فرتو وفي قاية وطن كود جوب هيا الدلك الصومالي بوب هيا يقصوا الناس ككين هيا وإسماعيل عمر قال لي وأنك بقرطو يضا كويس تجبوتي حافة تجبوتي كيف سيدا تشاينا قوم يدا هلا كان حسوق هيا إلا إثيوبيا يسكتوا هيا وإسماعيل عمر قال لي عالم كي يدون كي دولة قلبات كانوا رالي بيوجيه وين يقول فيرسن هيان ده سوية بونتك الأشياء بس واحد الله يعني سومالي ده بينتم شيء جس وبينتم كل شيء جس حاسة الشيخ مدحوينا ما حاسة فورس ده مدحوينا ما حاسة فورس ده وارجعيه على الشباب وحاسة فورس ده وحبا محمد فرماتش ما دامه وكسي ليتا وسام سيتويشن واسيدي محمد فرماتش
wax istagaashana ma jirto waa heshiis waa mooryaan criminala oo heshiis weeye maxamed farmaajona heshiis buu leeyahay man aydin sheegahayo waa ku soo qabanaya hadda ku soo qabanaya soo qabso isoo wac messengerkayga soo wac waa ku soo qabanaya waa markhaati ma doonto iga qaba marka iga qabo waa ku soo wacayaa iga qabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هابري سودو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذ العدي والو غير سنة هيا وات maxaad ka oran leedahay arrimaha Soomaaliya ka socday xasafoor rasadii groupkiisa Camar Fadhiya Horta anigu maxaa la yiraahdaa waxaan ku sheegayaa idilay meesha tan maxaa la yiraahdaa Allah yarxamo Generaal Maxamed Siyaad Barre Janna Fardows horta Ilaahay geeyo waagu baxaya la yiri wadanka maxaad uga soo baxday wuxuu ku jawaabay qoliyay ayaan uga soo baxay buu yiri haddaba yeedii xilligaas uu sheegay 32 sano ka hor Maxamed Siyaad Barre sheegay weeyaan waxaan duurkana ku jira dalkana jooga wixii baa isii daldalo yeedii waxa meesha jooga oo wax cunaya oo islaynaya waayaka qodobka uu kale ku xigaa waxa weeye war maxaa taraa ilaa dhuusa mareeb iyo ceelbuur tumuqdisho ceelasha biyaha wixii ka sokeeya maxaa qaraxa keenay soo ayeydii waagaasi Siyaad Barre ka dardaarmay ee USC-da ahaa Soomaha waxaa dadka laynaya su-aasha kale ku xigtahay waxay tahay war adleysida yaa ilaynaya maaliga Ethiopian baa ilaynaya madaarood baa ilaynaya madigil iyo marif baa ilaynaya yaa ilaynaya yeedii baa qaarna madaxu yihiin qaarina dhulka ku jiraan sidaas darteed ayagii baa islaynaya ku heshiiyey inay sheekadu saa ku noqotoon ka diiraynin marka sidaa darteed reerku ayakaa madaxnayso ayakaana yeeyna la yiraahdaa lama yiraahdo maanta wixii ka dambeeya waxaan idin sheegay dadkeena meediyaha soo galo ha oranina al-shabaab waa nin sharaf leh al-shabaab waa nin cilmi leh al-shabaab waa ninka maxaa la yiraahdaa dadka iyo darkiisa u daneeya maaha waxaan al-shabaab yeeydu marka ay maxaa la yiraahdaa subaxda waagu u bariyay intaysan kaadinin dad iyo duuyo waxay aragto way leefaysaa waa liqaysaa dadkana waa noocii weeye waayay aan kaadinin weeye dhiigga dadka ayay ku bulaalaan oo guryo ku dhistaan oo ku taajiraan kama naxaan hooyadiis muuse ka naxayn walaalkiis muuse ka naxayn qabiil ahaan buuse iskaga naxaynin sidaa darteed waxa weeyaan gacan waliba waxay geysato ayaa laga gooyaa gacan waliba dambiga ay geysho ayaa ama aakhiro looga gooyaa ama adduunka looga gooyaa nimankaan leedahay maxaa la yiraahdaa hiiraan bay degaan oo maxaa la yiraahdaa xawaalahaad ku sheegayso dad masaakiina oo xamaaro ka soo qaxay oo ay dhihi karaan orda ku noqda dalkiina ayay duhur cad oo loo wada jeedo wabigooda ay ku shubeen kii alla keena la'a ama lugala'a ama curyaan ahaa ama aqtay waayna qoriba inta ula yiraahdaa bay saas dhash ugu siiyeen xaqaas xaquu maraya xaqaas wuxuu marayaa maxaa la yiraahdaa yeeydu ayagaa dib isu cunaya waxaasayto inaad u jixinjixdaan haddaad daaro tihiin inaad waxaad ka jixinjixdaan ama u jixinjixdaan xaqba maaha ama aad sheegtaan magaalada Muqdisho waxaa joogta yeeyda haysata ama ma dhihi karo waa madaxweyne ma dhihi karo because maxaa la yiraahdaa yeeydu uma naxdo ma hashooto dhiig bay 24 saac afka kula jirtaa xasan sheekh dhiig bu 24 saac afka kula jiraa nin kulligood waa yeeydi adugu waa yeeydi oo wali kaadin mid alla markay waagu u baryana ama qarax bay ridayaan ama qof bay madaxa ku dhufanayaan ama qof bay dilayaan haddaba waxaan anigu uga digayaa anigu yeeyda waxaan u sheegayaa war ilaa dhuusa mareeb iyo maxaa la yiraahdaa beledweyne ilaa ceelbuur ilaa Muqdisho ilaa inta ka dhaxaysa oo hawiye dago
ayaa waxay kale meeshaan ka socotaa madiidantihiin yeedii xaaji maxaa la yidhaahdaa maxamed siyaad barre janniya fardowse allah geeye oo ka dardaarmay inay yeedi yihiin wax kale oo aysan bila aadmiba ahayn oo aad u malaysaan dad inay yihiin haddaba dad ma aha dadkaana waa yeedii uu ka dardaarmay maxamed siyaad barre waxaan marka u sheegayaa qaraxa aan ka socon Hargeysa qaraxa aan ka soconin Puntland qaraxa aan ka socon Galkayo qaraxa aan Baydhabo ka socon Kismaayo adeerkii maxaa la yiraahdaa geerashin uu jooga aan maxaa la yiraahdaa ka soconin ee ka socda carraha weyn oo kaliya waxba yeelsan maxaa la yiraahdaa dadka aysan ku dhagdhagin yaydu haysa xaliso anigu intaas aan leeyahay cid kale u ilaanaysa ma laha taas waa iga taas tan labaad waxaan leeyahay beesha daaroodow odayaashiinni iyo indheergaradkiinni iyo raggiinni iyo dowladnimada miyiinin idinku inaad yayda daba socotaan mooyaane aynan lahayn damiir aad wax ku doontaan oo dadkiinna aad ku badbaadsataan daarood baan la hadlayaa beesha daarood baan la hadlayaa anigu cid kale la hadli maayo dad alle waxaan idiin sheegayaa daaroodow intaad kacdaan oo wax isku fashaan yaydaan 24 saac ayagu dadkooda aad aragteen say u cunayaan hawsha horseedina xamar oo dadka inaada hadhiindina waa inaad ku talagashaan inaad dowlad u dhistaan dadkiina oo aad dadkiina ka naxdaan ilama raas casayr iyo raas kayambooni daadsan waa inaad u hadashaan oo ku kacdaan oo dowlad wixii dhisanaya aad la dhisataan dir baa diyaara raxweyn baa diyaara waa inaad dadka dowlad la doontaan oo dowlad u dhistaan dadka kanaan u bixiyay yayda u bixiyoon ina siyaad baraka dardaarmayna iska daaya allah u naxariista horanina ilaahay u naxariisan maayo sababtoo waxaa weeye inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun 30 sanadood baanu lahayn 30 sanadood ayaanu lahayn wahalyay baanu dhalanayn wax ka celinayaan u dhalanayn shacab baysan lahayn waxbaysan kacaynin damiir ma laha abgaal iyo habargidir baana madax ka ah wiyoo dhan yaana ceebaysanin habargidir ayaa madax ka ah waxa dhibaatada maanta dalka ka dhacaya abgaalna waa dameerdaan raacday wax kale oo meesha yaallaa ma jirto waxna idin kama gelin dowladna idimaaha waa yeedaas islaynaysa sidaa darteed indhaha ka fiiriya idin dhiilay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxba qabanaynin laa yanfac walaa yabnuun taasaan leeyahay waxaa ii soo haray wiilkii yaraayo bishaawi ahaa wiilkii yaraayo ducaysan aan u bixiyey ee abgaal ee gardarrada lagu dhaawacay ee ay dhaawaceen yaydu ay dhaawacdo sidaa arkay u galeen waxaan farayaa ninkaana leedin ina farmaajo oo reerka meesha u fadhiya oo naftiisii maxaa la yidhaha u qadimay oo iska dhex fadhiyan 100 jeer anigu la hadlay oo ka dhex meesha tan waxaan kuu sheegayaa hadduu dadnimo leeyahay amase damiir leeyahay lacag yaro bakad mariyo waxa ugu keenay meesha waxba tari mayse wiilka diyaaradahan turkiga ha saaro si fiican loo soo daaweeyey ina farmaajana intaasaan leeyahay waxaa kaloo ku xijinayaa oo aan leeyahay ina farmaajo ku guwaabinaya ilaahigii aan ku geynin tacsidii sheekh shariif sheekh maxamed hooyadii samir iyo imaan allah ka siiyo aan ku geynin ayaa ilaahigaas mahad iska leh sheekuna nabad wuxuu ku yiraahday imaan asagaaba ku yiri sidaan maqlaayay sidaas ku maasan yahay inaad halka xamar ku dhimato oo way ku dilo oo ku soo weeraro ayaa inaad farmaajo u fadhidaa meesha ceeb baa la doonaysaa yeedaad ceeb la doonaysaa in lagu yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya daaradka la dilay ayaad u fadhidaa wax kale u fadhidaa aqrab kale u fadhidaa malaha waxa la kala ka qabanaysa mare ciidan baan sameeyay ciidanka sameeyay milyanada ee daarad ka maqan yahay ee diri ka maqan tahay sababta maxaa la yiraahdaa dadku qaban laayihiin ama wuxuu tari laayihiin maxay tahay ina farmaajo maxay tahay waxaad samaysay ciidan buu sameeyay ciidanka yaa raalli kaaga ciidanka waxaa dhalay maxaa la yiraahdaa xasan sheekh ciidanka waa halbeer u dhisay maxamed farmaajo waa halbeer waxa mooryaanta oo meesha joogto ee aan u bixiyay ayaha u bixiyay baa dhalay maxaad ka istifiiday wey maxaad dalku ka istifiiday ma waxaad wax u baraysay inaad xeryaha ku xaraysay mushaar kuu qaataan maad u baraysay ciidankaad sheegaysay ciidan sookii dadka iyo dadka badbaadin jiray ma see loo galay ciidii mirsade alla janno fardowsaha ka waraabiya maalkooda iyo dadkii meesha ku jiray see loo galay haddayse waxba badbaadin karin ciidanka ina farmaajo aad samaysay waxaad u samaysay inay indhaha ka fiirsadaan maada dhihinin waryaaya dadkan hadduu qilqiil galo idinkaa mas-uul ka ah
kaloo kuu sheegayaa idilay daarood nimanka daarood oo aan la hadlaayo ilama raas caseer iyo raas kanyambooli qarax kama socdo ilaahay baana mahaddaas leh ilaahayga ina garansiiye inaan qabiilada kaleeto ku dhibaataysan magaalada ku mahadinaynaa sidaa darteed waxaa weeyaan dowlad dhista war dowlad dhista war dadka u kaca war shacabkiina u kaca war noo kaca war hawiye iyo maxaliya yayda tamsdilaysaa ha noo daba soconina oo kursi ha ka dawanindina oo waxba ha ku falinina oo midka xubka ha waarikow yow wuxuu qabtaa magac daarood buu ku fadhiyaa yow wuxuu qabtaa in lagu soo xasuuqo oo la yidhaahdo tag meesha asagoo bari ka ah oo waxba xasuuqi karin oo waxba dili karin inta la geeyo in lagu soo sawiro xawaalo dibadiisi lagu soo sawiro oo la yidhaahdo wuu aar gudanayay ayuu meesha u tegey waa nacas dhalay oo aabiyo wasa ah ha ka tago meesha ninkaas ha ka tago liisa la dunya ha ka tago wax intay rabeen waa intaas waxay xawaalo u xasuuqeen waa intaas wuxuu xasuuqi karana male wuxuu tari karana male wuxuu dili kara male sidii gabar yaroo lasoo arooso labada gacmood si saaranaya waxaan markaa idinkugula talinayaa oon kula talinayaa beesha daarood anigu yeyda warkeeda kuma jiro war yeey si wanaagsan isu xasuuqa oo si wanaagsan isu dila oo waxaan ku leeyahay ninba ninkuu ka adagyahay madaxa ku dhufto oo guryihiina gula oo wax naga galay xamar male ilaahayse waxaan ka baryayaa ninka daarood ee magaalada muqdisho jooga ee yeydu disho cadaabti jahannaba allah ugu waariyo intaasaan leeyahay lafta gareen iyo ciidankiisa reerkaan reer direed la leeyahay reerkaan reer daarood la leeyahay intaad isu tagtaan dadku dowlad rooba dadku kuwa buuxaani dadka intaad hagtaan oo shacabka kicisaan ayaro gabana maxaa la yidhahdaaye dhista dowlad oo dowladaad wax ka tihin dhista oo keena banaanka anigu intaas ayaan leeyahay maxaa la yidhahdaa idil farmaajay wax kaloo dhahay mal reerkan ha dhihinina mooryaan dambana ha dhihinina al-shabaab dambana yaan la dhihin waa yey aan dhargin weeye yey dhiigga dadka cabka weeye yeydu ilaa ay kaadiso dadka ma cunto duunyana ma cunto mar alla markay saakaadi u qabato qofka ugu horreeya dad iyo duunya geel hadday aragto waa leefaysaa reerkan waa yey ninkii ku dhex jirana ha cuntaa sheegtaye ha baabiisa hadday rabto ha loogu dhex jiraa laga raba xamar kursi calankan aanu ku nahay shirkada ku nahay dir iyo daarood iyo digil iyo marifliya reer xamar iyo waxa lagu hal maala soomaaliya oo dhan leedahay xasan sheekh haddaad u daysaan inuu garaamkiina cuno haddaad u daysaan waa idinka hawl idintaala weeye maxaa la yidhahdaa soomaali weyney yaydan ma dharagto guri kama dharagto lacag kama dharagto ma xishooto wa kuwaasa sidaas ayaa wiilkooda yarka ahaayo madiga ahaa uu madaxa ugu dhuftay maxaa la yidhahdaaye in adeerkiis ugu dhuftay muxuu ka dishay muxuu dilayay muxuu ka rabaa mis weydiinayay because iimaankuu laayahay suu dhiig habreed u cunayay suu carruurta yarkaa u shaqeeyey waa naayaa reerkan xawaadnaha leedahay oo leedahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waa run horta waa inaa lilaahi wa inaa ilaahi waa xaq balse xilligii daarood iyo xamar laysku leynayay ee yaa daarooday arkay lalahaa beesha habar gidir iyo beesha xawaallo u badan yihiin walba habar gidir aana odhanini inay baabuurka gadaal ka furan oo ciidda qaateen baa habrihii iyo indhoolihii iyo dadkii laga qaxay iyo maatidii intay baabuur ku gureen yoomalqiyaamo anaa la ii soo fariisinayaa ayaa waxaa lagu sheegay wabida badda jasiira lagu soo daadin jiray fiid walba nin kastoo waktigaa joogay markhaati wiiqiye yuusan markhaati furin nin kastoo waktigaa joogay markhaati bay yihiine markhaatiga ayaysan iga beenaynin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inta gaariga ciidda qaada lagu guro ilaa 20 ilaa 50 markay gaaraan baa fiidka waxaa la geeya jasiira badeeda inta la geeyo baasaa loogu gadin jiray sidii ciiddii doomo yaryar baa dhaxda markay maraysa afkuu ka xiran yahay madaxa jawaan baa uga jira aayarogana waxaa lagu dhex daadin jiray ii sheegeen badda gudaheeda markaasaa doontoo faaruqa soo noqon jiray habar gidir ayagaaba dadkooda daadin jira dariskooda ka yaqaanaan aan ku xadgudbi jirinin ha ii ammaanin aniga anigu waxbaan ogahay naa ku dhex jirtayna waana gabdhihii dhabgiir aan ka soo dhigay baa maanta xaadir oo yurub jooga oo aan soo qaban karaayo dhihi karaa hadla sidaa darteed war si fiican isu xasuuqa war si fiican isu qarxiya war si fiican u baabaa I don't care waxaan ka nahay wax idinka galay lama arko uga baxa dalka
dalkooda daarooda uga baxa nimankan ayagaa si fiican dhiigga iskaga dhilaya baaqiga soo harana ayagaa soomaali soo raaci doona weli maysa ka dhargin dhiigga dadka kamaysa dhargin marka dadkii ka wada carariyey maadaama dadkii ka wada cararay ayagiibaa isku soo haray raxmadda ay isu hayaan habar gidir iyo abgaal ma ii sheegi kartaan soomaaliyey ma ii sheegi kartaan waxayeelay haddaan daarood ahay maxay tahay dad kaliyaan isdirirnay ceelasha biyahana ku kalaar nagu gal tagnay ii sheega wax raxmadda aawiyey isu hayaan ma jirto walaa murursade walaa habar gidir walaa abgaal wax raxmada ah oo laysu hayo malehe sheeko waxay maqleen sheeko la yidhaahdo aan is aruursanno warkaarkaas nin baa qortay janana oo maxamed faarax aydida la yarxama la yidhaahdo ayaa kaarkaas qortay haweena isu imaan maayo baaqigiina inta galanbaabiga oo soomaalinimadu hayso oo ammaanka raba maanta ay soo haraanna dowladda dhisantaad ku biiri doontaan haddana kow ma joogtaan kow iyo laba ma joogtaan kow iyo laba ma joogtaane bahasha halla ma dhawaa war bahasha ma dhawaan ku yidhi maxaa idinka galay ma ninkii isagoo madaxweyne isku sheegaya dadkaad aragtay hutaaga ku jira inta miina ku xiray hal marday raxmadda uu hayo maanta ninka murursade uu hayo maxay tahay xasan sheekh iyo habar gidirtoona waryaaya been yaa laysu sheegin been baad sheegaysaan been haweeno raalliis kama wada aha calooshana isma fayooba daaroodow ismayni dirin sidaa wayaal isu xasuuqday isumayni xasuuqin wax isahayn dhexdaasina lama arko gacanta insisaara dowladna dadkan u dhisa ka kaftooma yaydaan adaba socotaan ka kaftooma ilaahay haddaa taqaaniin intaas ayaan ku soo gabagabaynaya anugu warkayga qolka la yidhaha idil farmaajooy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتاسنا ومامدي iyo fikradeeda iyo caqligeeda waxay ku kordhin lahayd qabiilka liiraada daarood waxay dalka ka jira xasan foorarsade wuxuu dalka magaalada muqdisho ee maxay telefilada la fadhiyaa isku dir qabiil iyo dhibaato iyo iska argusasho ayuu u fadhiyaa meesha Soomaali xal uu keenay ma jirto asagoo masuuro roobo yaargagixisadii ma salaad u niso u dhiibay dadka ku laynayaan dal suu ku hogaamin karaa suu Soomaali isugu keeni karaa asagoo hal reer kaliya dusha ka saartay ee reer liiraada habar gidir ee la yiraahdo ayr ya oo dusha ka saartay oo la yiri isma dhaqaajin kartid yaa weelak video yaa ka hayna hadaa is dhaqaajiyada kursiga niga qaadid marka Soomaali ma matalo xasan sheekh waa la hayste milkiilaha dalka hogaaminaya dadka laynayana waa mahad salaad milkiilaha dadka laynayana waa mahad salaad argagixisa iyo masuuro roobo argagixisa iyo maxay tan xamsa oo argusasho u tagay Hiiraan inuu shacab masaakiimina ka soo argusado dhibaatadii jalalaqsi shacabiyadii ogaadeen loo geystay inuu u soo argudo u tagay Hiiraan marka waxaan idin leeyahay Soomaaliyay hadda ka bacdi ka fiirsada dambiyada qofka ka galeys inaan lagaaga haraynin one day in laga ka argusanaya Soomaali waxay u nool yihiin iska argusasho revenge ayay u nool yihiin waligiin qof bini aadana shacab masaakiimina qabiil ha ku xasuuqin qabiil ha ku dhibaataynin one day buu ka argusanaya laga argusanaya one day boqolaal sano ka soo wareegto Soomaali haddaan arinta laga fariisan haddaan oday dhaqameedyada laga heshiinin haddaan xal iyo xumaan la iska siinin way ku daba taagnaanaysaa saas ogaada kow waa ka baxay taas maxay teen dalka Soomaaliya wax dawlad ka jirta ma jirto dawlad goboleedyada raiiskood bay isku maamulayaan qabiilka la yiraahdo daaroodna waa inaad maamul samaysaa dad aqli leedin hadii kala xamar ku baabaa qaraxyada iyo hoteelada lagu laynaya ka mid noqda dhiigu hadaato dhiigu ha faraq leeyo hadii maamul samaysan xasan sheekh Soomaali ma hogaamiyo xasan sheekh xamar xitaa ma hogaamiyo xasan sheekh xaafadiisa kaliya xitaa ma hogaamiyo waa lagu hogaamiyaa ma salaada ku hogaamiyo ma salaad iyo hebel Bukhari iyo maxay teen ninkii la dhahaayay maxay teen iyo fiqi iyo al-Adaala qabiil ayaa hogaamiya iyo maxay teen roob la baahane iyo ina Cabdi Shakuur ayaga hogaamiye farayna ka hayaan
dalka soomaaliyana ma hogaamin karaan soomaalina uma dhexeeyaan waa hal shaqsi waa hal qabiil soomaali uma dhamma maamulka xasan sheekh uu filada la fadhiyo cid uu hogaamiyo ma jirto cid aad madaxweyne u tahayna ma jirto adeer waxa weeye qolkaaga ku jir shacbiyada beenta u sheegaysid iyo beesha caalamka iyo gaalada gacanta nugaysa iyo UN-ka gacanta nugaysa iyo dowladaha galbeedka gacanta iyo Mareykanka u sheeg beenta cid ka dhagaysanaysa malayor liar below khaa'ina xun oo Soomaali isku diraya oo Soomaali isku sifeynaya oo Soomaali soo rogaal ciriyay qabiilada in la isku xasuuqo waa xasan sheekh dalka laga qabta xasan sheekh dalka xasan sheekh iyo argagixisadiisa laga qabtay masuurow roobow ha laga qabto dowlad goboleedyada waxaa leeyahay maamulkiina hogaansada xasan sheekh masuul idinkuma ha marnaha tagina hana la shirina hana la heshiinina magaca Soomaaliyeedna waxaan leeyahay gaalada deemta ku siinaysa magaca Soomaaliyeed xasan sheekh iyo groupkiisa kuma siin kartaan Soomaali masuulka maahan xasan foorarsada masuul Soomaali oo dhan kama Soomaalina ma xukumo Soomaalina ma xukumo mana ku siin kartaa deemta dalka Soomaaliya cid idin siinaysa ma jirto deenta ka joojiya ilaa Soomaali isugu timaado ilaa qof iyo cod ay timaado Soomaali ka joojiya dhibkaas waxaa masuulka Ismaaciil Cumar Geelle dhibka waxaa masuulka Soomaali inaysan heshiinin Soomaali isku imaan 4.5 ee calaamo loo kala saaray waxaa ka masuulaha Ismaaciil Cumar Geelle ninka xaafada haysta ee gaalada ku ogolaatay ee wadamada Afrikaanka iyo Mareykanka iyo wadamada Yurubiyaanka ku haya adeer dictator baatay ka tag doorasho gal maxay Ismaaciil Cumar Geelle meesha lagu hayo sabab waxaan weydiinayaa dowladaha galbeedka waxaan weydiinayaa Mareykanka waxaan weydiinayaa dowladaha Yurubiyaanka waxaan weydiinayaa Faransiiska baan weydiinayaa su'aashaana weydiinaya waxa weey sababta Ismaaciil Cumar Geelle haaf qarni kursiga ugu haysaan qoomiyadaha la degan waa inuu qof iyo cod sameeyaa qoomiyadaha waa in loo dhiibaa kursiga sababta kursiga ugu haysaan sababtaad uhuru u tiraahdeen mar saddexaad ma soo geli karta adeer xukunka waa inaad dhiibtid sababtaad koonka madaxweynihii koonka u tiraahdeen doorasho gal waa inaad kursiga wareejisaa sababtaad ugu haysataan abi Ethiopia waa inuu kursiga dhiga sababta asaga u qabsan weydeen Ismaaciil Cumar Geelle oo kursiga ugu haysaan haaf qarni uu isaga fadhiyo asaga isdoortay oo maxay qoomiyadihii la deganaa waxa suuqayana oo uga aamusantihiin su'aasha idinka rabaa markay wadamadiina waxaad ku dhaqamtaan ninkii laba mar doorashada ku guuleystay mar saddexaad ma soo gali karo asagana wuxuu haystaa 45 years ayuu ku fadhiyaa Djibouti kursigeeda asaga iyo adeerkiis waa hal family qoomiyadihii kale la noolaana waxaad tiraahdeen ku tumo xataa xuquuqul insaanki waa diideen xitaa inaad ku daba gashaan idinkoo dhulkiina iyo deegaankiina xuquuqul insaanka ku ilaasha ayaa raal uga noqoteen Ismaaciil Cumar Geelle oo dictator ina meesha ku haysaan kow waxaan kale u sheegayaa ayaan dhaweyd waxaan maqlaayay magaalo la yiraahdo asal la yiraahdo ee Djibouti ku taala in la isku qabsaday niman sirdoona oo Ethiopia ka yimaadeen inay meediyaha soo galeen af dheer ee Ismaaciil Cumar Geelle isku qabiil yihiin oo la yiraahdo Ciise ay dhahan annaga waa inaan shaqo ka helnaa asal China shaqo bixinayso nin anfara nagu diiday waa naloo diiday dawladay naga soo gaara adeer waxa weeye anfar dhulkooda ayaga iskale qofkay rabaan inay shaqo ka siinayaan adiga shalay wadadii aafashaa lagu marsiinayaa wurdadii way ka soo tooseen anfar shalay hadaad baabiisay oo xasuuqdaado Ethiopia ka yimid oo xuquuqdii Djibouti u diiday oo raggoodii anfarta ahayd qaar intay ka carareen gelinka shanaad tagan ayagoo u dhalad Djibouti oo ka xeersi Djibouti waxa weeye sirdoonka Ismaaciil Cumar Geelle soo diray ee yirmiidiyaha soo istaag ee Ethiopia ka yimid ee lag asal annaga iskale waa inaan shaqo ka helnaa adeer nin walba dhulkiisa iskale dhulka anfarta iyaga iskale qofkay rabaan bay shaqo ka siinayaan qofkay rabaan bay u diidayaan iyaga iskale lag asal dakhil ayaga iskale dhulkooda ayaga iskale xaq bay ku leeyihiin dhulkooda waa inay adiga kaaga taliyaan waa inay ku diidaan shalay hadaad ku tumanayso dameer ku ahaayeen waa inay ku diidaan dhulkooda markay China dhulka laga iibsaday anfar baa iskale
ismaaciil cumar geelle dhulalka cusbadu ka iibsaday anfar baa iska leh adiga iska malihid etoobiya ka yimid adiga ciise oo etoobiya ka yimid iska malihid adeer jabuuti waxaa iska leh u dhaladka jabuuti not etoobiya dad ka yimid u dhaladka jabuuti yaa iska leh raggaan waaqleh ee miidiyaa soo galo uu ku jiro xitaa wiil la yidhi ismaaciil cumar geellaa dhalay ee fargashiga bidixda wuu soo gashta ee canfarta caaya ee ina ismaaciil cumar geelle soo gala miidiyaha oo dadka aflagaadeeya oo canfarta caaya oo akhlaaq xumo la soo gala oo ismaaciil cumar geelle dhalay ayaa jira ee wadamadeena ka dhiiban ee sharci wadamadeena ku haysta ee caaya dadka muslimka ah la degan ee canfarta caaya aflagaadeeya ina ismaaciil cumar geelle soo ogaaday istadin baan ku maqnaani reerkan baan istadin ku maqnaa ee dhabarka dadka ka jabinahaya ee biri intaa u hiilisa dhabarka ka tooganhaya annaga Soomaali haddaan nahay reerkiinan ciise weyne iyo ciise caar ma dheer ku haya adeer Soomaali annaga waa idin baranay aniga kula hadlayna farmaajo shacbiyadayda Soomaaliyeed waxaa igu ballana dhaqamadiina iyo gandihiina waxaad ganta sharci ka dhigataan iyo xeerarka ku nooshiin oo ugaaska ismaaciil cumar geelle u shaqeeya ee fadhiya Ethiopia waxa ku dhaqantaan shacabka Soomaali inaan la qaybsado weey waxa dhaqanka idin ah waxa sharci idin ah wixii xeer idin ah wixii ganda aad u taqaanaan waxaad ku dhaqantaan waa inaan shacbiyada Soomaaliyeed anigu waa inaan la qaybsadaa because aniga waxa la sheekaystaa dad u dhalad Jabuuti ayaa ii sheegay waxaad xeer ku leediin reerkiinaan ciise xeerkiinana waa inaan u sheegaa shacbiyadeeda Soomaali waa inaan la qaybsadaa markaanu baan ma sheego idinka idin soo istadin garaynaya ismaaciil cumar geelle dhaqanka wuxuu ku dhaqmo kow ismaaciil cumar geelle dhaqanku ku dhaqmo waxa weeye qofkii iga soo horjeesta ee mucaarad dhab igu ah miidiyaha u soo gala caaya ka saara dadka nin hadduu yahayna ciyaal buu fuulaa waa laga roone futadu ruuxaa naag hadday tahayna ama wuu waalan yahay kiniini buu cunaa naag hadday tahayna waa dhillo waa qamriga cabtaa waa dhaqanka ismaaciil cumar geelle media haddaad ka aragtaan reerkan ciise ee Ethiopia ka yimid ee afafka dheer u soo gala ee dadka caayahaya dhaqanka waa dhaqanka ismaaciil cumar geelle kow ismaaciil cumar geelle dagaalka city iyo anfarn asaa mas'uulka ka dambeeyay anfar soo uma tegin wiilkii islaanta qatar qaawan dhashay ee nagiib la leeyahay iyo maxamed jaamac soo dhul anfar kama degin yes wuu ka degin waxa anfar iyo ciise isku dirayna waa ismaaciil cumar geelle sababtu isugu dirayna waxa weey inaysan mucaarad ku noqon ciise because sababtu sharciga u yaala ee ugaaskooda iyo gantahooda iyo dhaqankooda iyo xeerkooda u yaala waxa weey nin ciise ah ee kursi ku fadhiya nin kale oo mucaarad ku ah ha ugu noqonin ninka ciise mucaarad kastaad u tahay heshiis kula noqo asaga difoosay waa sharciga u yaala waa gantaha u yaala waa inaad asaga la jirtaa ismaaciil cumar geelle wuxuu rabaa inay hoos yimaadaan reerkan ciise uu xasuuqayo uu dhaladka Jabuuti uu xasuuqayo uu xirahayo uu bahdilahayo reerkan Ethiopia ka yimaadeen inay hoos yimaadaan oo dhahaan ismaaciilow adaan kula jirnaa wuxuu anfar iyo ciise isugu dirayo city oo isku baabiyo loo xasuuqay waa siyaasad because hadduu heshiisiin karo ama isku keeni karo Soomaaliya wixii ka dhacay uu soo dhex fariistay muxuu u dhex fariisan waayay maxay tan uqaashi anfar u keeni waayay Jabuuti ugu casumi waayay muxuu ugaaska ciise Jabuuti ugu keeni waayay muxuu gacmaha isku saari waayay muxuu u heshiisiin waayay ilaa waa asaga annagana dhex fadhiye Soomaali haddii qorsho ka dhaqato iyo Somaliland haddii qajac ka yeerto waa asaga dhex fadhiya ee noo kala turjubaanahaya ee wararka noo kala qaadahaya ee isku keendirahaya ee oday iska dhigahaya muxuu oday isaga dhigi waayay ciise anfar muxuu heshiin weeyay waa siyaasad because wuxuu rabaa
ciisahan waaqwaaq leh ee beenta idin sheegahaya dhabarka idinka tooganahaya ee iska dhigaya mucaaradka ismaaciil cumar geelle ee sirdoonka ismaaciil cumar geelle wuxuu rabaa inay soo hoos galaan ay dhahaan ismaaciil cumar geellaan la jirnaa waa nala xasuuqay cafar baa na laysay adaan ku garab taaganahay adaan ku ilaashanaynaa adaa boqorkeenna ah adaa aabbaheen ah adigaan kuu tanaasulnay mucaarad kuguma noqonayn waa siyaasad uu kursiga kusii fariisto waa siyaasad asaana ka dambeeya ciise iyo canfar inay city isku laayaan asaana ka dambeeya in maxay hayteen la xasuuqo ciise asaana ka dambeeya ugaaska ciise inuu afka qabto asaana ka dambeeya dhulkay sheeganayaan city inay ciise bixiyaan oo canfar siiyaan asaa ka dambeeya asaa saxiixay ismaaciil cumar geellaa idiin saxiixay marka dhaqan haddaad leedihiin nimankiina ciise yaa ciise caar ma dheera adeer qabiil soomaaliyeed baa tihiin jabuuti qoomiyadaa idinla degan idinka yeeli mayno inaa idinka forgood haysataan idinkama yeelayno qoomiyadaha idinkula nool inaad maxay teen xuquuqdooda ku tumataan idinka yeeli mayno annaga soomaaliyeed dhabarka naga toogataan idinka yeeli mayno annaga soomaali inaana baabi'isaan idinka yeeli mayno munaafaqad iyo qurun iyo 10 wajiil iyo 10 af idinka yeeli mayno annaga xaq waxa weeye waddanka la wada degan yahay qoomiyadaha wada degan waa inay xukunka ku heshiyaan 4 sanaba waa in qoomiyad kala qabataa 4 sano waa inay qoomiyad kala qabataa 4 sano qoomiyad kale inay qabataa idinka yeeli mayno haaf qarni inaad dul fariisataan wiilkay soo wacay ee igu haya walaalay Soomaali baan isla nahay ciisaan nahay sitiman ka soo wacaya ee noo galow inaan kursiga ku soo noqono hadduu ka tago ismaaciil cumar geelle kursiga ina annaga ciisaana soo saartaan walaalaheenaan nihiin adeer niliima gudin canfar baa soo fuulaysa kursiga ogow canfar baa soo fuulaysa jabuutina iska nalihid waxaa iskale u dhaladka jabuuti nin Ethiopia ka yimid jabuuti iska malahan noocu doona ha noqdo qoomiyad kasta ha noqoto jabuuti waxaa iskale u dhaladka jabuuti not nin Ethiopia ka yimid kursigana waxaa soo fuulaya beesha canfar qoomiyadda canfar baa soo fuulaysa waxaan idin leeyahay canfaray nimankaan miidiyaha ka waaqwaaq leh ee Ethiopia ka yimid oo ciisaha ee iska dhigaya ismaaciil cumar geelle inay mucaarad ku yihiin mucaaradku maahan waxay rabaan birita haddii doorasho qof iyo cod dhacdo inaa ugu shubtaan idinkaan nili khiyaamahaya hurdada ka toosa qoomiyadaha kale la degan Soomaalida kale tay maxay tahay kuda biirsina iyo carabta la degan iyo dadka la degan Jabuuti hurdada ka toosa yaani la khiyaamin godka waxa ku jira xabsiyada waxa ku jira waxa baahan wax caafimaad darrada haysta waxa la soo qabanayo Ethiopia laga soo qabanayo waa awdhaadka Jabuuti annaga waji nooma samaynin dawladdeena idinka burburiyay ismaaciil cumar geelle adeerkii baa burburiyay 4.5 ismaaciil cumar geelle noo sameeyay Soomaali idinka kala jarjaray argagixisada idinka ku dalaalay tuugada idinka 32 sano ismaaciil cumar geelle iyo rejiimkiisa diidan in maxay hayteen Soomaali dawlad caadil u dhalato qof iyo cod ah tuugada asaga la shaqaysto mooriyaanta criminalka argagixisada ismaaciil cumar geelle hurmuud buu la shaqaystaa Axmed Nuur Jimcaal uu la shaqaystaa argagixisada oo furaha Soomaaliya haysta marka waxaan leeyahay waxa weeye qoomiyadaha degan maxay hayteen Jabuuti ee walaalaha way arkayeen niman ciisa oo dhar Jabuuti ee qabiil lagu talaalay ee caayaya walaalahood canfar ee caayaya Soomaalidii la deganeed ee caayaya carabtii la deganeed waxaan idin leeyahay niman yahow dadka dhiban ee dhibaatada ku jirta waa ragga idin soo duulay waxa weeye ragga Ethiopia ka yimid gamdaa noo dhaxeeya sharci baan hadda ciisanahay haddaan ciisanahay anagu sharci baa noo dhaxeeya marka waxa weeye naagta ka soo horjeedo ismaaciil cumar geelle ama raacayno markay gamdaheena iyo sharcigeena iyo xeerka ciisa noo degan xeerka ciisa noo degan inaanu ninka ciisa naag mucaarad ama qabiil kale ku ah inaana ka raacino asaga raacna gariga garta raba waa gamdaheena iyo xeerka ciise
وأوجهي وعادي عايدين ودياف لقاديسين وديساكي دكتين معارض ودمرك إيجت وجتين وناكتا وناق من ريحان إسماعيل مرجلنا وعيسى مرك جندهنا يا شرعينا يا نجرتنا ما هليل ها نجرت عيسى وحواي قفش الشاي هكراعن وحوي هنك عيسى تقورتك هقوني وين الرعدة ده سوية دي عايدين استوبت أنا مركت توجنا يساد ما شفتوا أنا جا وحن رأسنا هاي قومية ده دقن جبوتي أو دارت كجبوتي أي رأسنا أفر بار رأسنا واسيبوت كرانيا because أفرتو وادت مسلنا وادت حقيقة كسرت وادت رنت كهل وادت سيدات إنك كرسي وش عشين أيقول كرسي الربان هاف قرني أفرتني يشنسرو أياد جمينة يسين ويتي فين أدر ما أنتي صوت حسين أنفر ما أنتي صوت حسين كاو مثل لبات وحن دي ويديني يعني ما كنا عيسى أراري توبيا لكن كنا كارلا يا مركا صومالي أي سودا وهذا مركا لكن كان ليه هنا يدين شيء يا مركا لكن كان ليه وحوي نسيب إن من كدارب بكوسميان هويكم السميان نعيب كي أقبان حمان كي أقبان أي عيدين لقيب سنة هيا nin ciise ayaa wuxuu saaxiib la noqonayaa nin daarooda oo ilma haysta oo naaqaba annaga haddaan daarood nahayna waa soo dhaweynaa ciise waa soo dhaweynaa walaalaheen Soomaaliyeed waa jecelnahay xariir baa idin gugulnaa maxay tahay ninka daarood ee ku soo dhaweeyay ee reer kale ee xaas kale diin ma lahan dhaqanna ma lahan Soomaaliyeed dhagaysta anaa reerkaan idinka jahal bixinahay ninka daarood ee saaxiibka la noqday ninka ciise ee gurigiisa soo galiyay ee xaaskiisa soo galiyay ya finally xaasku u daba maraya finally ninkii naagtiba isku diraya ninkii wuu caroonaya naagtiba u soo guureynaya naagtiba riminaya ka bacdibu ninkii soo celinaya ilmihii ninka daarood ilmaha ugu jiro ninka week ilmaha ugu jiro ninka week reerkiina saaxiib buu leeyahay aash buuna la cunaya ninkiina wuu la qayilaya naagtiina uu ka farfaraynaya dhaqankaas ay leeyihiin reerka Itoobiya dhaqankaas ay leeyihiin reerka Itoobiya dhaqankaas diin ma leh dhaqan ma leh akhlaaq ma leh walaal ma yaqaanaan xushmad ma lahan waxaan leeyahay ragga daarood ee nin ciise saaxiib kula ee Itoobiya ka yimid gurigaaga ku dhex jira oo xabiib la tahay ilmahaaga fiiri ninka week asaga dhalay ilmaha midka week asaga dhalay gurigaaga ha uga tagin gurigaaga ha ku aaminin reerkaaga ha uga tagin xabiibna ha ka dhigan gurigaagu ku maqan yahay naagtaadu ku maqan yahay naagtaadu farfaraynaya ilmaha adiga aad dhashay ilmaha ugu dhex jira uu si gaar ah u ilaashanayo naagta ka dhalay naagta ka dhalay asaga week wuu og yahay asaga ilmahaas inuu asaga dhalay adigana inaad dhashaa moodaa barkee diintaada iyo xarinka islaamka ku guursatay ayaa naagta kuugu xiran waa niman ka daarood ama Itoobiya ha noqoto ama Yurub ha noqoto ama North America ha noqoto ama Canada ha noqoto meel kasta ka fogaada nimanka ciise Itoobiya ka yimid gurigiina ha soo gashanina nimanka hawiye kuma sameeyaan reeraha hawiye kuma sameeyaan waa reerka daarood waa ogaadeen waa dhulbahante waa ma jeerteen gurigiina hoos ugu noqdo ninka naagta qaba ee ninka saaxiibka gurigaaga hoos iyo ilmahaaga hoos u fiiri gurigaaga ha ku aamin hoos u fiiri nacayb iyo xaasinimo iyo qurunimo iyo dhaqan ay leeyihiin weeye istarin soo istarin galiyaan وحقيق نعيب إذا نعب يهم بجوريجا يا ناكتاد وفرفرين حيا وحقيق والله بالله تالله صدق لي سير كله وحالي يجيك ويل نن دارادة ناقبو قبا المو هايستا نن عيسو سحيب لي هاي ولا قيلا جورجي سو كذا ليك مركو شقة هذا هيو وحين هذا ورنيه ما داموا صحيح تنمية ولا له يقانو أنا مدح الناس ساري هاي عيسى مدح الناس ساري هاي أيقونا كفنتين نيتول هيان مو يرى هذا ورهاد إسكسي قيلو أنا شقان هذا هيان
shaqaan aadahayaay waa kaasaa shaqada ninkan daarood 11 kuu galaa ninkaana wuxuu uga tegahayaa 10 iyo 9 gurigiisa uga tegahayaa asoo ku qayilhaya ninkii wuxuu samaynayaa niman asaga la shaqeeyo wacaya wuxuu leeyahay war ninkii shaqada ma soo galay waa soo galay bas naagtuu farfaraynayaa naagtiisii ayuu farfaraynayaa gurigu u dhex fadhiyaa magar ilmaha waxaa ugu jira nin wiilkaas ninkaas u eg naagta waxay leedahay waa ku walacay aragiisaan ku lacay taasuu ugu eg yahay walac waaye urisaa la ii saaray ha waa ku walacay ilmihii waxaa ku jira mid asaga u eg ninkaan saaxiibkiisa ciisaha guriga imaanahayay baa ku dhex jira gurigii sidaas ugu dhex jiraa wuu isku dirayaa ninkii naagtii buu isku dirayaa ninkii wuu caraanayaa wuu bahayaa markuu baxo naagtii buu u imaanayaa naagtii buu ka shaqaysanayaa ka bacdi markuu naagti ka shaqaysto buu ninkii naagti isku keenayaa way heshiinayaan waa isku soo noqonayaan meeshii ilmaha ka abuurmaya ilmaha ninka u eg waa ninka ciise u eg yahay ilmihiisu ku dhex jiraa ninkiina waa saaxiib waka maastalina waxay ku sameeyaan baali nimanka daarood bay ku socdaan ka fogaada ragiina daarood gurigiina ka fogaada nimanka Itoobiya ka yimid ciise dhaqan ma leh diin ma leh akhlaaq ma leh barkee dhaqankooda Itoobiya saas ah dhaqankooda Itoobiya ayaa saas ah ha dhaqankooda Itoobiya ayaa saas ah أنا وايد صاي استرجرني وسخدينا يدي كده إذا الفرماج نينا كدرينا عيسى نجا أمسي أدر نو أنيجا وحويه خير نقنحون ونديل لهين أو أسكجا كورجا ما صاقلو هلا يدي شيء يعني خيران إسقابني وسخدة هشيسك كوه أدر كورجا ما صاقلو بركي اسمنا قبتان وسخدنا وقنات كديقتان كدافنا وات كديقتان يا إثيوبيا كوسميان ما هودرت كجيبوتي وكوا إثيوبيا كيمادا دقنكحون ما ها كوا كيمادا بورم يا هلكا كسيلع كيمادا وحيشودن وكوا إثيوبيا كيمادا وعيسى إثيوبيا كيمادا ودقنك إسماعيل عمر قيلي أسا دقنكا كدقم إسماعيل عمر قيل كدقم جري واسكو دقن أسغي إسماعيل عمر قيل يجي إسماعيل عمر قيل بايدي شيء هيا ما هيك عاية يا ناني ما هيك عاية بركي يجا فروق ليس قدر لي يجا وعلنا ما ليس قدر لي أيها كقول داف ليس قدر لي وعلنا ما بشيك تام وعلنا ما بشيك تام وابو حلال با ساسي توبيا نمكي ودقيلها يان ناقو دي بيقانن ناقي ناكتي سيبوتك هيا كان ناكتي سيبوتك هيا لقن كاسي سقا ودا دالين هاي دي شيء يعني نبا قبر قرسن هيا اللي يري إثيوبيا نيجا قرسن waa saaxiibkiis wuu la qayilaya gabadhii buu maalintii dambeeyay ninkii baa baxaya meel kale u diraya ninkii gabadhii buu sii dhuqaysan haya waa inuu sii maraa gabadha dhaqankaas ay leeyihiin ha waa la leenahay way naga dhaxaysaa ha waa dharbaxnay ay dhahan ha waanu haynaa waa in loo hayaa waa dhaqan weeye ay caadaysteen marka nimanka daarood ama Itoobiya ha noqoto ama Yurub ha noqoto ama North America ha noqoto dhaqanka Ismaaciil Cumar Geelle ragga Itoobiya ka yimaada gurihiina ka saara saaxiib ma galaan عيش ma galaan xabiib ma galaan aamin ma galaan gurigaaga reerkaaga naagtaada ilmahaagu biisi ku yahay baa idin sheegayaa waa Ismaaciil Cumar Geelle dhaqanku ku dhaqmo waa Ismaaciil Cumar Geelle wiilka Facebook ka soo gala wuxuu hooyadii uga dhalay in Ismaaciil Cumar Geelle dadka caaya anfarta caaya faraantiga bidixda Ismaaciil Cumar Geelle gashta soo gashta in Ismaaciil Cumar Geelle soo gala adduweynaha iska soo dhiibay sharci laga siiyay dagaal laga siiyay ma sheegahay wadanku joogo ha dadka caaya علي كوي أو علي أنفرت عايا أسوي إسماعيل عمر جيل دلي
aniga dadka nadiifka oo dhaqanka leh oo akhlaaqda leh oo edabta leh oo muslimka ah oo laga gardaran yahay oo dambiga laga galay ayaa raacaya ma soo noqonaysaan ismaaciil cumar geelle kursiga way laga qaadaa dhulkiina jayna laga iibiyo canfaray idinkaa iska leh waa inaad calan saarataan waa inaad go'daan hadduu ka degi waayo oo kursiga idin siin waayaan oo nila kala dhexgeli waayo calan saarta goboladiina maamul samaysta idinka idin gaara maamul canfarland samaysta jabuuti waxaan leeyahay dadka u dhaladka jabuutina waxaan leeyahay raggan etoobiya ka yimid iyo isku kiindirin hadday ciise yihiin hadday canfar yihiin hadday gudabiirsi yihiin hadday isaaq yihiin hadday carab yihiin hadday suudaan yihiin idinkaa walaalaha u dhaladka jabuutiya gacmaha isqabsada yaa la isku kiindirin raggaan wada waashay ee etoobiya ka yimid ee marna jabuuti sheegta jabuuti baan ka nimaadnay xataa luuqadooda faransiiska xataa shaqaysku ma lahan ninka u dhaladka jabuuti iyo ninka etoobiya ka yimid luuqadda faransiisku waa hadlahay shaqaysku ma lahan luuqadaad ku garagaran kartaan soomaaliyay ragga dadka hadlahaya afka dheer leh ee fluwli soomaali ku hadlahaya waa kuwa etoobiya ka yimaada sheekh ma leh caaqil ma leh siyaasi ma leh xisbi ma leh qabyaalad ayaa u ah dhagarleey qabyaalad ayaa u ah maxaytan enan xeer qabyaalad ayaa u ah dhaqan cid ismaaciil cumar geelle ka soo horjeedaa ma jirto dadka ismaaciil cumar geelle ka soo horjeeda waa dadkay caayahayaan waa cumar cali xasan waa maxayd xuseen fiilo iyo aniga yaflagaadaynahayaan xisbiyada xitaa ay sheegtaan waa been waa munaafaqnimo ismaaciil cumar geelle hoosta kula jiraan because dhagarleydooda ugaaskooda ee ismaaciil cumar geelle lacagta siiya ee etoobiya jooga xeerkooda dhagarleydooda waxa weeye ninka ciise haddii lagu mucaarado hadduu xitaa ku dilahayo waxa weeye asagaa kula dhashay waa inaa garab siisaa waa in qofkaan shisheeye ee mucaaradka noqday uga hiilisaa waa dhagarleyda ay leeyihiin ay ciisaha leeyihiin waa dhaqanka ay leeyihiin waa xeerka ay leeyihiin been waay haddaad aragtaan reer jabuutiyow haddaad aragtaan nin been idiin sheegahaya ee meelaha soomaali ka waraysanaysa ee dhahaya anigu ismaaciil baa ka soo horjeeda waa been biri qof iyo cod intay noqoto wuxuu rabaa inaa ugu shubtaan u idin qiyaameeyo ismaaciil cumar geelle hoostu kala jiraa stupid weeya etoobiya ka yimid marka canfarta maxaa u diida canfarta etoobiya inay jabuuti sheegtaan gudabiirsiga degan etoobiya inay jabuuti sheegtaan maxaa u diiday isaaqa etoobiya degan inay jabuuti sheegaan maxaa u diiday daaroodka degan etoobiya inay jabuuti sheegtaan maxaa u diiday carabta maxay hayteen degan maxay hayteen yemen iyo meelahaas inay jabuuti sheegtaan maxaa u diiday waay maxaa u diiday cidaa ka caqli badantihiin mal adeer aniga ninkaan soo istandigaraynayaan tahay ka maqnaay gruubka ismaaciil cumar geelle ee geeska afrika qasahaya way laga qabtaa no idinkaga hiilin mayno adinkaa gardaran canfar idinkaa ka gardaran haaf qarni baad gumaynayseen ayaan dhawada maqlay ninku hadlahaya annagaa ugu xaalo badan annagaa geeska afrika haysana annagaa jabuuti haysana haddaan ciise nahay xoolaan haysanaa jabuuti aan ku mintidaynaa jabuuti qoomiyadaha kula degan qoomiyadda kula degan baana qabsanaysa kursiga qof iyo cod baana loo dhaqaaqahayaa haddaad diidaan canfarna dhulkeeda waa goosanaysaa canfarna way goosanaysaa maamul bay samaysanaysaa canfartii eritreya iyo tii etoobiyaba dhulka waxay imaanahayaan jabuuti ee canfarta degan yihiin bay imaanahayaan kaalaadi u diid kaale adeer waxaa weeye etoobiyaad ka timid etoobiyadaada ku eko shiikh haddaad tahay waxgarad haddaad tahay dhalinyaro haddaad tahay adeer etoobiyaad ka timid etoobiyadaada ku eko dhegaysta ninkaan dhegaysta
ودلت كجبوتي إلا دبعتيه فؤاد ودلت كجبوتي برقد علود ودلت كجبوتي جباسة ودلت كجبوتي وحبسي كجرا ودلت كجبوتي وحاجاتها هيس ودلت كجبوتي وهوج يا بلنبل كجرا ودلت كجبوتي وحشرعي يا باسبورو لو ديدا ودلت كجبوتي أما إيسا هالنقضة أما جودا بيرسا هالنقضة أما إساق هالنقضة أما دارود هالنقضة أما عنفر هالنقضة أما هالنقضة محيط العرب هالنقضة وأودارت كجبوتي وحكو رفاسا يا هايستا يا كتو من هيا يا بابين هيا يا حوكو هايستا وإتوبي كيمت واشي رقم حمل لا يمت رقم حن on عاشوا ملح قونين oo Soomaalini aqoonin oo walaaltinimo aqoonin oo aan diin lahayn ayaa haysta Djibouti oo Ismaaciil Margeel yahay kow ha suk dhagarleyda dhagaysta ninkan waa u dhalad Djibouti laakiin qabyaaladu waa ku jirtaa laakiin dhagarleyda isu ku xiran yahay laakiin يا لكن وانا عيسى وأودرت كجبوتي وعيسى دقيستا حكو هاد لاي ميسي يعني مدوح عيسى اما ما صلنا دول مستوح رئيسي وحر تابعنا وحر وحويا وحمانتا قضوا محايا دولتكم محوكا فايدة وكاد قضوا كبوح جيرا كدولت كالي قدولت مات وحد دولت كل جيرا ودولت في جبوتي وحني لقت ما دولت في جبوتي وحلا أقول لك قوم دولت في جبوتي وحقوا قلنا الدوسر دولت في جبوتي وحلوكوا بحلقة قوم دولت في جبوتي وحصار الله قال حني على قط دولت في جبوتي يا قرنا وامي وحقوت كل جيرا ودولت في جبوتي قفرها المحسن كمجر بار قوت كمجر لما نحرنا هندوت تفضل الله نص غفطه وعدي ما تيسن وعلى حيرها وعباهن وعجبوتي كسل عسن وأودرت كجبوتي وحور ربا عنفر إيا عيسى إيا عرب إيا إساق إيا دارات إيا قودا بيرسي إنو جبوتي اسكو ديرو إنا عيسي أساقا صوهوس قلان معارض كي بانت انتي كسو بحارين إدهان اللهم لبيك أهي وبقر كأني إسماعيل عمر قال لي أسا كنت بفيشن نحي دقر ليدا إيسا ويا وحيرك إيسا ويالا حيرك كلا ويالا وحوية نن ناك قبيل كلا قبنا وحوية شركة إيسا كمسو قيب قلي كرو لكن نيكا ناكتا إيسا قبا أما ناكتا نيكا إيسا قبا شركة إيسا ويكسو قيب قليسا وشرعي ويالا نيكا سرتا إيسا لو شيغي مايو شركة ودانا كما سو قيب قلي كرو because نا قبيل كلو قبا ودقر ليدا إيسا وحيركا إيسا ودقنكا إيسا ها هذا راني وايدي سو درس إذا كان يدي سو درس هيا إذا كان يدي سو أخرسن هيا إد أقل تكرتان ما جرتو إد أدبر كتوغنيسان ما جرتو إس أنف Soomaali dhabarkaad ka toogateen galinka shanaad ina afar dhabarka ka toogateen Ismaaciil Umar Geelle ma dhaleeceysaan dhibaatada sita ka jirto inuu asaga mas'uul ka yahay aadan faarax ma dhaleeceysaan nimankiina ku qayilaya ku geerasheynaya diri dhabe ee xoolaha haysta ma qabsataan ugaaskiina Ismaaciil Umar Geelle lacagta siiya laaluushka siiya ilaa ugaas xasan asaga dilay Ismaaciil Umar Geelle dilay وقاس حسن إسماعيل عمر قال لا قعمتي سكت لي وقاس كاويل كيرة يا أو خاين لماذا يا شرعي يا واحد دقتين يا قشن دقتين إذن كو أقل إيه أفكا لقبطي أو إسماعيل أفكا كو قبطي يا أيام مسؤول كما يهدلان ما دلي عيان ما قبصتان إنا أكتر بعد قبصتان وقاعدين بعد قبصتان قالي كشناد مامك سا قبصتان أبي بعد قبصتان ما كرتي TPLF بافتاد وروح حيسان هذا وحوية TPLF وتصبح قاضي ما صار نقونيس TPLF ما صار نقونيس عيسى إثيوبيا فتاد الروح هاي فتاد عنيسى إسماعيل عمر قال فتاد وقتشرع العقد السين هيا كسو هاي البربرين إثيوبيا
ee ku soo hagahaya burburinta abi inuu kursi ka qaado geeska afrika inuu dab ka shido u fadhiya maxama idin hagaagahayaan TPLF ma soo noqonayso tusbax goode weeye ma soo noqonayso absolutely ama futada u ruuxa ama u ruuxina kursiga ma ku soo noqonaysaan madaxweynaha future-ka soo socda waa Xuseen Ibrahim Maxamuud waa Xuseen Fiilow asaar kursiga soo saarahay asaguna waa professor kana galinka galaaska lixaad buu ka baxay Ismaaciil Tafarre galaaska lixaad buu ka baxay Ismaaciil Umar Geelle Ethiopian ka soo baxay dirdhabuuna ku dhashay Ethiopian weeye oo dhaladka Djibouti waxa qabsanaya Xuseen Ibrahim Maxamuud madaxweynaha future-ka waa asaga waana anfar ciisana waa dhashay asaga dalka hogaaminaya Ismaaciil Umar Geelle you must go idooratay ma jirto Ismaaciil Umar Geelle idooratay ma jirto Faransiiskii buu xasuuqay sirdoon Soomaaliya ku xasuuqay sirdoonkii Faransiiska asaga xasuuqay Judge Barrow asaga gubay asaga iyo Xasan Madooba gubay Judge Barrow oo Faransiisa oo u soo shaqatay Djibouti ninka gubay waa asaga Ismaaciil Umar Geelle weeye Faransiiskana waxba kama qabanin هذا إسماعيل Umar Geelle he must go وبحيا إسماعيل Umar Geelle وبحيا عنفر بانا قبصنيسا هذا ديدان عنفر رول كذا يقصنيسا رول كي Djibouti كلها يقصنيسا عنفرتي إثيوبيا عنفرتي إريتريا Djibouti بيسافر يسنيان هباوتيو ما حد كقاضيسان مركي إذا إثيوبيا تكسر قاعدين وعرفتان Djibouti نحوكو قبصتان عنفرتي إريتريا يكوي إثيوبيا Djibouti بيسافر يسنيان مركي Djibouti bay soo fariisaneen anfar hurdada ka kacday qoomiyada kaliya oo annaga khiyaanay oo dambiga ka galnay oo siya bar dambiga ka galay oo beesha daarood reer sida dambiga ka galay waa anfar Ahmed Diini ayaa khiyaanay ma garatay ma soo noqonaysaan waxba hay soo wicina aniga waxba hay soo wicina hana igala hadlina kursiga Ciisaha naloo soo saar Soomaali manihin waxba iskama keen gelin cadawtinimada iyo nacaybka ay qabta guryaheena xalaasha ah raggeena daarood naagahoodi fuulaysaan nacaybkaad ii qabtid see kugu leeshiinaya markaan saan walaal ku noqon karnaa marka reerkiina Itoobiya ka yimid anigu ma ka hadlaayo Ciisaha degan Djibouti oo dhaladka Djibouti magaad reerka dhaqanka lahayn Ismaaciil Umar Geelle ka soo askuma Itoobiya ka yimid haystaani reerka Itoobiya ka yimid xaraamtii qashinkii qurunka la wareegay haystaani ragga wasaqda ah ee guryaha daaroodka xaraamta kula soo meeraysanaya ilmaha naagaha ka riminaya ee cunugu ugu dhex jira ninka daaroodka u eg ayaan ka soo horjeedaanay dhaqan xumadaas oo dhaladka Djibouti ma haysto Ismaaciil Umar Geelle dhaqankiisaan diidanahay waa dhaqankiisa ku dhaqmaysaan inuu naagaha ilma ka dhaldhalo ilmihiisa meelaha taagtaagan yihiin oo annaga meediyaha noo soo galayaan ay caayayaan anfar ay TPLF futada u ruuxayaan inay Ismaaciil Umar Geelle ee adduweynaha sharciga laga siinayo u baan u sheegayo dawladda wala nooriyo sharciga siisay asoo ina Ismaaciil Umar Geelle ana nooma qarinaysaan idin hiilinaysan ma jirto TPLF hadaa futada u ruuxaysan raaca TPLF idin ka erinaysan malahan abina asaga iyo doqonnimadiisa weeye hadduu Ismaaciil Umar Geelle iyo naagta ku xigta ee Ismaaciil Umar Geelle saaxiibka la ee madaxweynaha Itoobiya ee amxaarada hadduu ka digtoonaan waayo waad arki doontaa Soomaaliya waxa sheegay waa soo baxaan ninka la leeyahay abi banaanku istaagaya waana fashilmaya hadduusan sidii TPLF u istaagin oo go'aan u gaarin ama sida maxaytan Eritrea uusan go'aan u gaarin oo geesi uu noqonin u gacan biro ku qaban Itoobiya TPLFna gacan biro ku qabanin raggan Ciiso Ismaaciil Umar Geelle la jiro ee TPLF futada ruuxayna gacan biro ku qabanin waxaan idin leeyahay qoomiyadaha Itoobiya in amxaaro Eritrea Soomaali anfar gacmaha isqabsada TPLF iska qabta
قعن بركو قبط تي بي إلف والله بالله تلا وكش الله ينسان هذا تي بي إلف قبل هديد أمي دو بن تي بي إلف وكش الله ينسان ها عنفر معن عنفر وادت صومالية وادت بني آدنة وادت نقل له وادت أخلاق له وادت أفكار يدكود نقول قرهية وادت حلال قوضة تاع دبرك النجمة توجن على الصومالية معهن قريان ما صاقلين ناجهن من ناجستان نقل حمد دبرك النجمة توجن صومالي مبربرين على مدى نروم الصارين أدير وحويه أنك حق بان كتاجنهاي أن كيالي مجرتو أنك جبوت أطلعين قبيل كان عيسى قبيل عيسى no عنفر باقب سنيسا عنفرنا دول كود وين قعدت كسر وحار إذن لا هاي عنفري دول كينا ومحت تشاينا كيف سدي تشاينا قعدت كويسة لا دير كلا يا تشاينا على سميستا مامول سميستا هداد الحقوق دينا كهلين تشاينا اسك عيريا اسك سارة تشاينا دول كيدا كاسكله دول كعنفرتا أي تشاينا وكيبي عصبنا عنفر بايسكله لك عسى عنفر بايسكله أيها جوز كوسكله قف كي ربان بكشق على سيرن قف كي ربان أدي دايان دولة ورقي توبي كي مدسر دونك إسماعيل عمر قيلو أفدر نن أدلتا عيسى أدلت جبوتيا أدرسا وما أفدر ودت أفقابا ودت حشوضة ودت دونتا ودت كنا بتقلا ودت وحلعنا لكن كوا إثيوبيا كيمت فرق إثيوبيا كتمت أيا صومالي وسخيسي جيس كأفريقيا يجا وسخين وإسماعيل ومرجله جامين هاي هلو هبرير هبرير ها وكتير هبرير ما بقدر سريش بقدر وكودي بيا كهذا الهبرير كرسي كان إسماعيل عمر قال يا سي رير كان عيسى وشك ايست ورايا دايا وان كسر نقد الناس وان كسر نقدي وعن الشيء انا شيء شري بيتي نعتي استبعت شري ما انت كله هذا البدن الشيب كله شغال دارنا الشيبنا كوغو ما الا وين شري محمد سياد برب markuu maxaa la yiraahdaa ugayliyay xanfar ugayliyay maxaa la yiraahdaa ishageyneen oo lacagta iyo kursiga iyo calanka iyo ciidanka iskugu daray markay annaga nalayn daarad baatihiin oo daarad ahaan loo xirinayaan miyay ilaa weentaas wali kiriibkii maxamed siyaad barreel laga duubay abti doonna la yiraahdaa ayaa ku jira maxaa la yiraahdaa media ku dhex jira sidaa darteed أنا وكلام وحن كأنا أغصنها يقولون وحن أغصنها ولا تنعيسه أنا إثيوبيا تجدده إيه تبوتي تجدده ما كان أو وحنا كان كشجع واي قدام بي بل سوى شجع كل سوى مرتي عينه فركا مع الإرادة لندنسكا إسكوبا يجين عنفر اللي مع الإرادة طورشها الجوال لوديبو عدين لوديبو وعينا عنفر دول بيلاده دول كذا 5 دقيقة كوسكتو طلع ولكن عروسة كوصلي ولكن عروسة كوصلي اتحاملك أمد إلهي كل اتحامي مياه ملكمون كده اللي يريد دير يا مياه يجري واي تلو أسجع والله قفير سنة يا وعلى يري شيطانك إيه نيكا دمك بضلي دمك دمك كوب حيسما كبرالا إلهي أمريكو سيادية سعادات اللوغو واريو عمر قيل لنك الليلين وعنين آخرية أدون كان وحنو أمية اللان أدون كان درجي آخرنا وحنو كل كربا إلا ما أركو هذا ما كرسي وين ومرتب نقطة شلون محمد سياد براكيني تركي وسياد محمد سياد برنا وأصحاب نغما إيانا واتي محل إذا دور عن أي نوعي الليين دركن كوبابيين واتي محل إذا يجي كيان نوعي إحدين واتي محل إذا إلا عبد يرتانيتو قرحة يهوج يبقى أي كوضان صومالي كوضان أسجانا كمسؤولة خارج بطول من ديما يا أسجا يا وهو وطأيا كمسؤولة مركب
maxaa la yidhaahdaa keligood meesha male waa laga leeyahay waa waxaan hadda isku haysana reerku leeyahay walaalaan dhac wareer ciise inaysan dadnimo lahayn oo isxaan lahayn oo edab lahayn waxaad ku dareemaysaa shalay hawiye markaa anigu xukumayey ee aan ahay maxaa daarad ahay oo anigu aan kursiga u soo bixiyey oon cafar uga hiliyey ayuu maanta dadkii noocaas ahaa anigii maxaa la yidhaha igu yidhi lamaadka kale waa inaad baabiisaan oo dishaan daaradka dila daxiya wax walba sameeya dowladeenina asagaa ka dambeeyey tan hadda bismilaana asagaa ka dambeeya sidaa darteed cafar garabkeeda afarteeda garab baanu taagana horta anagaa sheegayna waayo anagu ma nihin doqomo ma nihin anagu waa hiilinaa haddii nala ka hiiliyana waanaan gudanaa sidaa ugu ogaado gaar ahaan adiga inoo farmaajo ah waxay ku caayayaan waxa weeyaan doorashadii hore ee adeerkaa maxamed siyaad barre reerkaa soo saartayna kama fiirsan markii dambe hadda wiilka walaalkaa yimidna kama isfiirsano hub buu u maleeyey adeernimadiisu hub u maleeyey adeer maaha waa aboodi cuna weeye waa waxaan maxaa la yidhaahdaa dhiigga dadka ku naaxay weeye waa waxaan akhlaaq lahayn weeye soomaali ma aha ninkii waxaan akhlaaq lahayn akhlaaq male raggii daaro guryahooday ku dhex jiraan oo naagahooda ka isticmaala isku jira waan dhaqan lahayn wejigiisay ka muuqataa taas markaa intaa uga baxo halkan waxaan kal una sheegaya beesha reer caabud waq ee mareexaan waxaan u sheegayaa yaysan ciyaar la noqonin ninka la yidhaahdo naaishaag magaciisa ninka magaciisa isaag yaaqay wiilkii maxaa la yidhaha fiicnaa wadaadkii xaajidad casar ilaahay xaqlaa kuugu dhaartay wiilka qoriga u wata ingiriisku jooga ee lagu xukumaa magaciisa dad casare magaciisa oo saddexaadna iisoo tur sawirkiisana iisoo tur qoriguu watay iyo wixii oo dhan iisoo tur anaa ingiriiska jooga ballan ilaahay waxaan kaaga qaaday inaan dacwo ka geeyo ballan igu ah dad casar ha la daayo hooyadiis iyo adeerkiis miya mogaabihiisa waa yeel u tegey waddanku ku dhashay buu tegey waa xayrsanayaan qoriba u wataa waa nin ingiriis basaboor ingiriis haysta weeye sidaa darteed ninka la yidhaha dad casar waa ninka keliya oo gabdhaha soomaaliyeed ee ameerika jooga kii dhasha iyo kii la xiro iyo kii carruur laga qaato iyo kii dhinta ninka u taagan oo soomaalinimada ku taagan oo dad casar weeye nalakama taaban karo dad casar haddaan qurbajoog nalakama taaban karo mareexana kuma dhacaan waa nin maraykan citizen maraykana weeye ilaahay waxaan ugu ballan galay ninka qoriga ku cayrsanayo ingiriiska jooga magaciisa iyo iisoo tur iyo qorigu watay iyo siduu ku aandaday kilibkii oo dhan halkaa iigu soo ridina farmaajo inaan dacweeyaa ballan ilaahay kaaga qaaday taasna dad casar gasay dad casara wixii ku gaarayba waxaa kaa siiya baladaas ilaahay maxaa ku leeyahay saa dadka uu gargaarto ilaahayga weyna waaxidkaa ku gargaaro dad casarow ilaahay ku gargaaro haweenka soomaaliyeed oo qurbaha jooga way ku jecel yihiin ubaxaa ku jecel dhallinyaradaa ku jecel hooyooyinkaa ku jecel kulligood salaam baan kaaga wadaa sidaas darteed hadda waan ilaaway markaan soo baxaya inaan waxa u soo galay adiga dartaabay ahayd dad casarow guulaysaan ku leeyahay guulayso wax lagaa qaadi karo maya ninkaas iisoo gudbi maxaa la yidhahdaa magaciisaa saddexaadna iisoo gudbi ballan ilaahay waxaan uga qaaday haddaanan geynin magareeshinka geynin dacweynin dhin dadku meelaha ku dila fiir citizen maraykan watuu cayrsanayaa oo laleeya war taas ku hayaa على أي حال مامدا واتاسا جوابتي وي بحسي واتاس ما يقرتي على أي حال أننا وحان كسوغينا مرايكن كا أوباما دالك مرايكن كهوغامية جون بايدن مهوغامية نيكا فريسان وايي مركز التحاد نينو أساقا واتاكانساداي وأوباما دالك مرايكن كهوغامية سياسة دالك مرايكن كأوباما محيت كدوشاه وحاوية إسماعيل عمر قيلة وين جبوتي لقا قبطا إسماعيل عمر قيلة وين جبوتي لقا قبطا جبوتي قبيل قار أولى ملا إيسا إسكالي ملهن جبوتي وحا إسكالي قومي يدي سقوتي غيبا دقن يا إسكالي إيسا إسكالي جبوتي قبيل قار أولى مجرتو جبوتي وحا إسكالي قوميات إسكوتك طي جبوتي وحاوية قوميات كاليتا وين عنفر كرسي هذا لسارة ساد أطرادين هورو مرسد حاد مسو قلي كرتد وين إسماعيل عمر قيلة كرسي اللوغة قادا
on the spot way looga qaadaa geeska Afrika ninka isku diray waa asaga ninka maxaytan Eritrea idin ku diray idin jaajuusay waa asaga ninka beenta iyo warxumada tashiilka beenta idin kariyo waa asaga ninka gumaaday dhibaatada ee city ka taagan ee abuuray ee xasuuqay anfar ee 45 gumaysanaya gumaadaya waa Ismaaciil Cumar Geelle oo Itoobiya ka yimid waxaan soo gala miidiyahan Itoobiya ka yimaadeen u dhala Jabuuti maaha Fuaad ayaga jaajuusay oo Itoobiya ka soo qabtay xabiib bay isaga dhigeen qabiil bay isaga dhigeen inay ilmaadeeradiis yihiin Barqad Cali Cuud ayaga jaajuusay waxa ugu soo sii daaya miidiyaha nimanka mucaaradka u dhaladka Jabuuti inay u soo jaajuusaan inay u soo qabtaan meeshuu jooga inay ka soo jaajuusaan in Jabuuti lagu xiro منك فهذا حاس كيس مركي الديلة هاي هتاي جبر عيسى نقل لهيد عيسى واستقال لان حبط بالله قادر الله إسماعيل عمر قيلي هتاي ناق عيسى نقل لهيد هو يدي فؤاد ترك اللي جبت اللي جراعي ما دام هتاي عيسى نقل لهيدنا ويسكب باب إلى هاين ما دام إساق تاعي قبلنا إساق تاعي محيط سميرة سيدا بيوقع مسين وحكا الله يا فؤاد ماركتين وحبرقد على العود كان الله ماركتين وحقبوسة كان الله يا ماركتين كل وحوية هوستي كلا شقير اسمها المرقين كل هوستي كلا شقير وحلايا قبل اللي هاي بكاعة وحكلها يا فرعية بكاعة وحكلها هاي dadka la gumaaday ee kursiga loo diiday ee xaqooda loo diiday ee 45 la gumeynayay waa qabiilkaani ka soo jeeda Anfara u dhaladka Jabuuti adiga aad tahay weeye waxa la gumaaday dadka aad u hadlayso u garab taagan tahayna waa kuwa Itoobiya ka yimid nin walba qabiilkiisu dabada gashtay mucaarad ma ragga miidiyaha soo gala raadiyaha furta بين ويا وسوش قتجر إسماعيل عمر قيل وشقي واسردون كإسماعيل عمر قيل دتك قاعد نعكرع فرحية بكاء دتك قاعد نعكرع لاج عسى إيز عنفر بايسكله لاج عسى عنفر بايسكله نك عنفر شقدوا بحين يا سيك السوق قضاء ما قرطي أديك السادة عتكوجو تايكوجو معهن يا كوجو شقي رجع إثيوبيا كيم يا كوجو شقي سر رجع إثيوبيا كوجو يم دت يا قبيل يا عنفرت يا ماشي كسوجد نعكرع برقد على عود كم هذا الشيء فؤاد واتك هذا الشيء قبوطة واتك هذا الشيء برقد على عود نادو إلنا ذيرك يا وانين عنفرت لله كم هذا الشيء ما قرت waxaan ku leeyahay reerkan Soomaaliya say dhabarka uga toogteen iyo kaaga toogan aamin ma galaan reerka Itoobiya ka yimid reerkan afka dheer leh oo xabiibka u tahay aamin ma galaan kaar Ismaaciil Cumar Geeliye dadkiisa iyo ciisiisa futada uu ku wato Jabuuti banaga iskala waxaan idin leeyahay anfarta Itoobiya degta iyo anfarta Eritrea degta Jabuuti soo gala Jabuuti wax ku leedin dhul ku leedihiin Jabuuti soo gala dhul baad ku leedihiin dhulkiinni iyo dadkiinni iyo anfartiinni baad degan Jabuuti soo gala idinkana soo gala Jabuuti xaq baad ku leedihiin yaa idin diidi kara waka ciisi Itoobiya jooga Jabuuti futada kastay in ayaga leeyihiin guda beersiga ee degan maxay hateen ee boorama degan Jabuuti baad wax ku leedihiin soo gala kii Itoobiya guda beersiga jooga iyo kii boorama jooga Jabuuti baad wax ku leedihiin soo gala ها ساقرا إساقي وقوي جوج يكي إثيوبيا جوج يكي جيبوتي جوج جيبوتي ساقرا جيبوتي بالذي هنا داراتكي دبت جوج العيرية جيبوتي بالذي هنا ساقرا هذا جيبوتي ولا لا هاي نكي لقى رايا أنا ريركا وهرايا أتكيستا ها دولة لها قلبيتك دول فضية كل محيهتين كل محيهتين دقن جيبوتي وحي جيبوتي كده عادي كان مسؤول كاه because إذا كان كتل هاي إسماعيل عمر قال إن إثيوبيا كيمت رك إثيوبيا كيمت دتك جماعية إذا كان كتل هاي وحي كيم هذا جيبوتي إذا كان مسؤول كاه دولة ده قلبتك إيا مريكنك إيا جاينا وحي كيم هذا جيبوتي إذا كان مسؤول كاه
because وعبد الفريدان حروين بعد كل هذين إسماعيل عمر قال له يكوا إثيوبيا كيمت أدتك كماد هيا أدتك شرعي جديد هيا أدتك حسوق هيا الصومالي حسوق هيا أنفر حسوق هيا عرب حسوق هيا الرال وقتهين إذا كان مسؤول كا تقال هتوك نوع جبوتي إذا كان مسؤول كا ولا يسكت سوق يا جبوتي ولا يسكت سوق يا جبوتي ولا وده ليه هاي ولا وده ليه هاي Soomaali idin helina sare ma jirto Soomaali garbid guryahoodii xitaa waan laga ilaalinaya guryaha daaroodka xitaa waan laga ilaalinaya wax eesh ah wada cuni kartaa Soomaali ma jirto maba nili aamini karaba aamin ba ma gashaanba waxaan leeyahay anfaray goboladiina calan saarta haddii la diido doorasho qof iyo cod inay dhacdo haddii nili diido kursiga goboladiina goosta calan saarta goosta calan saarta walaalihiin eritrea jooga canfarta walaalihiin jooga Ethiopia haydiin yimaadaan xor u noqdo dhulkiina dhulka leedihiin xor u noqda laag casamaada iskale laag casaminka iskale laag casawa iskale canfar baa iskale ubu canfar baa iskale jadora canfar baa iskale mariga iskale no حقا الله هيليو حقا وين الله هيليا أنا حقا نتاجنا هاي أنا قلنا كان دبعتها نجوهيا دتك إلا الله ديار الله أرجع حسد الله الشقية باسبورة السين هيا السنبة هيا أنا قلنا نقول صادر يا رجع عايا ودارتا دتك عايا وإسماعيل عمر قال لي نيك محمد فرماجي يرجيم كيس يقول صدري واسماعيل عمر قال لي stop it waxaan ku sheegayaa maxamed farmaajo iyo Fahad Yaasiino ma soo noqonaysaan fariinta ay soo fartay Fahad Yaasiino maxamed farmaajo balki afka maxamed farmaajo ku hadashay Fahad Yaasiino ma soo noqonaysaan ala cashaas tima ka baxday because fariintiini way soo gaartay in ay hanjabtaan oo tiraahdaan hadduu maxamed soo fuulo iyo hadduu Fahad Yaasiin soo fuulo gurigaaga lagu iimaanay lagu gowracayaa waa ku gowracaynaa kursiga hadaa ku soo fariisano ku soo noqono waa ku gowracaynaa saasaa rabtaa kursiga inaa ku soo raatimiya maxamed farmaajo saasaa rabtaa ma Fahad Yaasiino inaa kursi ku soo noqoto Soomaaliya kursi ka soo gashid adoo ii daaranaya adoo fariintaadii soo gaartay adoo hanjabaataadii soo gaartay darag hadaa u dhinto maxamed farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo Ismaaciil Cumar Geela ka dambeeya darag hadaa u dhinto darag caawa ha baa lagu gowracayaa kursiga hadaa ku safariisano guriga lagu iimaanay lagu gowracayaa kaalay gowrac maxamed farmaajo Fahad Yaasiin oo kaalay gowrac adeer dal sharci aan ku sharci ilaahay baan jooga cid igu iimaan karta male cid aan ka baqahayana male Ismaaciil Cumar Geelo cid aan ka baqahayo male sirdoonadaada soo dir iyo waxa id midoon joogay ilmaha ku dhashay oo Canada jooga ee akhlaaqda lahayd soo dir waxa ballanigu cunuga soo dirsatay adiga dhashay ee dadka aflagaadeynay ee Canada nala degan ee Faraantiyada bidixda ka gashan ee adiga aad dhashay ee adiga ku eg inaan shacabka la qaybsadaa ee laga fariisan laayahay ee dadka caayahaya ee dadka wahanjeedahaya ee Canada ila degan ee sharciga Canada siisay ee beenta sheegay ee yiri Ismaaciil Cumar Geela ima dhalin anigu waxaan ahay nin Ciise ah oo Ethiopia ka yimid ma sheegaya والله qaybsanaya shacabkayga agteyda qori ka soo jabsay Ismaaciil Cumar Geelo agteyda qori ka soo jabso Ciise agteyda qori ka soo jabsada reer Ethiopia agteyda qori ka soo jabsada ma Ciise Jabuuti ma haysto kuwa Ethiopia ka yimid afka dheer baa haystaa ee xisbiyada ee mucaaradka beenta sheegaya ee shacbiyada u dhaladka Jabuuti beenta sheegaya ee qabyaalada kala gelinaya walaalahood canfar iyo Ciise wadaladka Jabuuti iyo Soomaalida isku dirahaya adeer Jabuuti waxa iskale u dhaladka not Ethiopia not farq Ethiopia ka yimid ha anfarta ku dhalata iskale Jabuuti gobolkoodana way koosanayaan anfarna waa soo toostay waana guubaabinayaa kursiga inay qabsadaan
inay jabuuti maamulaan haddaad diidaan canfar kursiga inay soo fuisho canfar dhulkooda ka badan dhulkooda ay calan suranahayaan calanka etoobiya ay surteen bayna suranayaan hal calan bay leeyihiin maamul bayna samaysanahayaan jaynana ayagu hoos imaanahaya wixii dhaqaalaana ayagu siinahaya ayagaana shaqadooda iyo sharciyadooda iyo jabuuti sharciyada u diideen iyo kuwaad wadanka ka saarteen oo etoobiya geyseen ee canfarta ee etoobiya tegay ood layseen oo disheen oo xiniyaha ka sibteen way soo noqonayaan dhulkii jabuuti ay lahaayeen bay ku soo noqonayaan way soo laabanayaan jabuuti way kala go'aysaa haddaad diidaan inaad midowdaan haddaad diidaan kursiga inaad ka degtaan haddaad diidaan in nala hogaamiyo oo madaxweyne nalii noqdo waxaa weeye jabuuti way kala go'aysaa sida soomaaliya oo kala googooday oo kala go'aysaa canfar baana si boodgaraynayaa calankoodaayna saaranahayaan etoobiya ay saaranahayaan gobollada ay jabuuti ku leeyihiin etoobiya canfarta eritreya iyo kuwa etoobiyana jabuuti bay imaanayaan yaa u diidaya dadkoodii baa degan eeladoodii baa degan qabiilkoodii baa degan familkoodii baa degan yaa u diidi kara nabari u diidi karta ma jirto saad isugu soo hiiliseen kiina etoobiya jooga iyo kiina aad caqliga ka xateen oo dhaladka jabuuti saad afka ugu furateen inaad jabuuti leedihiin waan idin leeyahay ayaguna waan idinla lahaanahayaan noolaada canfaray warkaygana maqla canfaray warkaygana maqla waa inaad ogolaataan inaad madaxweyne jabuuti ka noqotaan hadduu diido ismaaciil cumar geelle hadduu isku diido inuu idin laayo waa inaad jihaadaan ama goosataan gobolladiina calan u surataan go'daan waa inaad go'daan waa ku sibood garaynaynaa canfar baan garab taagannahay qoomiyadaha kale aan garab taagannahay soomaalida kaleeto u dhaladka jabuuti aan garab taagannahay ciisaha u dhaladkaan garab taagannahay kulli waa soo saaraynaa no more etoobiyaan dambeeto af dheer anaa idiin sheegahaya si aad bari nin mareexaan oo daaroodu ahaa asaa kursiga idinkaga hiiliyey qoomiyadaha jabuuti ku nool maantana anaa idinka dejinaya kursiga anoo naag mareexaan oo daarooda anoo naag mareexaana oo daarooda ayaa kursiga idinka dejinaya halo waa ka baxaya hadda ka baxaya habar waa ka baxaya waa ku jira hay may garteen khayr baa idinkaga tegay guul iyo gobonnimo idinkaga tegay sida ay nabadgeliyo soomaaliyay waxaan idin leeyahay nin walba gobolkiisa nin walba qabiilkiisa maamul ha samaysto wax dawlad la yiraahdo ma jirto wax maamul la yiraahdo ma jirto xasan sheekh waa argagixiye xasan sheekh qabiiladii iyo cuqdadii buu soo cusboonaysiinaya ka tashada wax dawlad la yiraahdo iyo wax madaxweyne iyo wuxuu Soomaali xukumo midna ma jirto والله هايسته ملكيلا دلك هايسته وفاد ياس وانك ليهاي ما هالصلاة بهايسته سيدا بيدكتي غوليو غوبنيمو عفراي نولادا لا غوليو غوبنيمو وين اد وجهادان حريتينا ساد اسكو خورين لهيدن هردودا waa ka toosteen israacsada jabuuti sidii waad ka soo falxalateen jabuuti israacsada nabaday assalaamu alaykum warahmatullahi